إذا كيسو وحويا المدحوينها وحكوري أنت الله فيرسن قراءة برلمانك قراءة وسير هذا أنا ربيل كريات ما هيسطو beeraha ugu badan run hadii la doonayo karxajis baa jira ma fahanteen waxa idaanin adeer oo oranin beel baa wax cuntay iyo beel baa wax qaadatay adeer waa loo simeeyahay waxana dhaxdhaxaad baa laga yahay waliba hadii beel la doonayo in adeer idinka bas laba xisbi oo qabiil la samaysto oo qabiil la furtay iminka adu deeqmo waxa taageeraysaa Muuse Biixi inuu day iminka waxaad adigu aad dambasaynaysaa in Muuse Biixi 2 sano biirsado كدبنا محمد كانوا أفضل وسومالان ودني إنك تقلصه مساس تاجريسه ويسوعنا هذا وحويان وأنا وركو عدينا يا لبنا السنة مسوى لوكر دينا يا محيه هذا إنا كاهن عضو كوي منا يا حسبي هذا معارض كنا كنا يا ده واحد إيمان كم شرعي بقى أي شيء اسمه شرعي بقى واربك شوقة هايدي يو أنت waxa ku meesha laba jaqaramadi madoobe ma taagnayna hadana bal wardaayro ku salaameen adeer waaye waa ku salaamaya waaye waa idin dhageystay sanayna adeer Muuse waa loo kordhinayaa nin laga baryayaa ma jirto waa loo kordhinayaa waa muqaddis ina kaahina cod buu diyaar u yahay madaxweyne xisbigiina waa lagu wareejiyay diyaar wuxuu yahay inuu isu soo sharaxo xisbiyada macaaridkana diyaar in ayaguna isu soo sharaxaan adeer nin walba taagtiin walba ceesan Muuse Biixi 2 sano loo kordhiyo 2 sano loo kordhiyo Muuse xaqo banaynaya sharciga waa ila abaarnimo jira musiibo lama jirto waxa uu banaynaya waar sugdee maxaa la dhilo qayla sayda waxa uu banaynaya ki siiraayo u baneeyay mudana muus waxa ku siiraayo heede tii u banaysaba isla u banaynaysa kow waxa ku dhicira wuxuu ragii saxeexay muddo kordhinta sababta imika looga soo warinaad waxa hor yaala teetu saxeexa hor yaala xaqa qaldan joojiye waaye deeq ku jir gabadha soo gashay Firdawsi ay qolama tafadus adigu waan dhaway daayiro doodana si fiican baa ula socday waxoogaa baan hoos fadhiyay marka hore waa ku salaamay salaamullah anu waxaan gabadha hawar awala oo Ciise Muuse ma garat haye Ciise Muuse mooyay haday ciidamada noolaato يا قلدن حسبي معارضك يا حكومته markaan waxa oran lahaa xisbiga wadani ana habar awal Ciise Muuse ku jira laakiin xisbi qabiil heerka garxajso ha ka dhigina ma garanays waaye daayro wasiibaxaya hal mid baan doonay hay aniga baxaya asiin hay sanad ka maanta daayro midiga wallahi waa بالله والله أم بقى بيالها نقطة أم بقى واحد دونتان نقطة أم بدين تلا نقطة أم بقى عجزوا فولين أم بس هم لا لا يسيجرن با والله يو بالله يو طلع والله باف يا وحكت عابو يا دعنا يا سيا وحكت هذا نيان أنا روال لقو بابا يا ما هي خبرت على نويت الشتاء أيام كايستاجين وارنا هذا ما بهنا دجال سوق وتمشوا قبيل بقى عنك بلو جوا كتاعنا ودك وصوماليا دي ما قرأت والله بين باس كل شدة دي ده واحد دقايق عشوتي ودمنا قلبيس يا كارد أنا كتير ما كنا أسرع ما كوا أساسا بربري كتير تدي كوي دوار عايزة ده قبل بعض رجينا ما شكل رجيني سيارة أنا جي سومال كسر عليه قال ما أنت إلا ذي ما نقول سومال كسر عليه رجينا هبلينا سيارة والله كصبح تيجي أنا بقضيه نشرفتها أنا كي شفت كسر عليه ما لقينا تيجي لو قبل ما صار هذا صار وارياه عدبا يالا أمبا كاهن أدير عدبا يالا كويري الميدان واسع بنينكي عانكا داتان دقنا ودا توقع كنين لبري مايو أدير محلو سكيني أدير نين لبري مكيكو عيسى ريولا أركي ما كنت جرتلو عيسى ريولا سوق والله بس أول فكرنا حقوق جرا ما بهاي واحد سياسة بتالا عاد يفوت بيالا وحوي يعني المادة الريالة وطلبتين يدوكنا يسوع سارة
ina kaahina waxa ku dhaal miidaan waasac bayna xashiki soo baxaya ila darcad baa lagu kala baxaya baan ku maxaa keenay qori baa lagu dagaalamaya maxay celinaysa waa ku maqlaa shaakir noo soo qabaniyo rag oo daynatan iska dejo hoos daynatan nagu dejo gabadhu gabar diraaca weeye gabadhu gabar diraaca aftahanada weeye gabadhu gabar diraacada weeye isriyolan soo geliye qadka muud ka qaad deeqa muud qaado hay muudka inaad gashaan jeclay hay horta laba siyaabood waan kuu sheegayaa horta garxajis iyagu in adeer weligood taariikhda lama helin meel ay cid ku gardaraysteen iyo meel lagaga adkaaday toona waaya dadkan ay kaga dhegteen xisbiga waa la wada leeyahay war xisbigu waa xisbi reer waa run waa xisbi ma garanaysaa reer walba xisbi baa ku magacaabay laakiin xisbigu waa xisbi somaliland oo dhan wada leeday laakiin dee waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaa geedna xidid la-aan ma baxo geedkaad arkaysaa dee xidid ma la-aan ma baxo cabdiraxmaan cirre reer buu ka soo jeedaa waa nin garxaajisa xisbiga musharax buu ka yahay isagaana aasaasayaashii xisbiga maantase xisbiga rag kala la leh oo de waa xisbi somaliland oo dhani wada leeday oo guddoomiye ku-xigeen iyo dee ma garanaysaay madax oo dhan loo kala dambeeyo taa horta intaasaan ka leeyahay dad kale xisbiga wadani ma xisbi reerba midda labaadeen odhanaya waxa weeye weligeedba taariikhda ma garanaysaaye intaasoo kunoo kaligii talis baynu soo aragnay oo adduunyada dee la ogaa muuse biixi cabdi maanta inaanu doorasho qabanayn garxajisnayn inaanu ma garanaysaaye saacad barhkii ugu darayn halkaasay kala taagantahay niyow maanta muuse biixi cabdi madaxtooyadii qaranka jamhuuriyadda anu nin reer hargeysa baan hay hargeysa waaxiga yaalla iyo ma garanaysaa saraakiisha ciidanku inay kala gurteen oo ciidamadii ma garanaysaa saraakiisha ahaa qaybta bayniga hargeysa ku taallay ee darar weyne oo kuliyadda ugu badana oo 16 kun oo askari ku jireen in xataa lagu kala baxay ayaa jirta oo qaybtii kale tidhi xaggaa markii la yidhi waa la wada tegayaa mataqaana halka la yidhaahdo xarab ee madaxweynuhu madaxtooyada labaad ka samaystay ee gurigiisa ah ee uu isku ilaalinayo halkaa markuu tegay ciidankii kale way diideen mana dee dhacaysa bay idhahdeen waxaana xagga kale daanta kale waxa ku taalla birjaax baa ku taalla oo halka qalabka ugu badan amba magarasa saanada ugu badan ay taalo waxa haysta nin araba waa haysta doollar la yidhaa isaga laftarkiisa u diiday in qalab magaranaysa saanadaa la raro oo meel gaara la geeyo iyadoo aan dalka la geynayn dee buuhoodla iyo jiita toona oo magaranaysaye de sabab markaa somaliland waxba yaan been la isku sheegin waxba yaan magaranaysaye been lagu baray cabdiraxmaan cirro waxa uu deganaa markii hore siinay laakiin habeenkaa caawa wuxuu dhex degan yahay daanta garxajis oo weliba suuqa weynaa hargeysa bartankiisa u gacan libaaxa buu dhex degay oo uu soo degay muuse biixina waa kaa usii qaxaya ma garanaysaye marka horta halkaasaa la kala maraya hargeysana de markii hore waa la kala lahaa ma garanaysaa nin waliba qayb buu lahaatay ma garanaysaa haddii wixii dalku ku heshiiyeen iyo doorashadii iyo sharaftii iyo karaamadii iyo wada lahaanshihii laga weeciyo oo wada qaldan la qaado iyaguna wadadaa qaldan ay qaadeen dee wax ugu jiraa garxajis ma jira deegaanadiisa waa ninuu ilaahay siiyey reer walbana dee deegaankiisa u tashanaya nin walbana deegaankiisa u tashanaya marka waxaan ku leeyahay dadka doonaya inay magaranaysaa ciisana waan siinaya dadka doonaya magaranaysaayey in ay waxaanay ogeyn ka sheekeeyaano horta maanta muuse labaduba gacantiisa isagay ku jirtaa wallaahi laba siyaaboodna wallaahi oo bilaahi oo talaa uu ku tegaya waana kugu cadaynaya labada siyaabood waxa weeyaan ee uu ku tegayaa horta qodob hadduu doorashada qabto somaliland oo dhan uu kasoo jeedaa muuse uu tegaya taa waa la ogi hadduu suraa dee dagaalana cidka itaaliyari ma jirto dee 3 kilomitir buu tegaayo wallaahi oo bilaa oo talaa taana uu ku tegaya labadaas siyaabood buu ku tegaya okay ikaaga ninkii aan soo gala odaga ahay iise suuqii weynaaye hargeysa gubtay lahaa waxa weeyaan suuqii gobonimaan ku jirnaa sidii loo gubi lahaa caqligaaga iyo hankaagu halkaas inaad taageen raga inuu reerkoo haddaa fiicane dib u fadhiiso inaad waaya ciise sine ciise haye walaynantaas ayraam daayro waan ku salaamayaa marka hore salaamullah وعليكم السلام waxaan filayaa xisbiyada ka doodaysa weelad ha yaa qaldan xisbiyada mucaaradka qaldan mise Muuse Biixi xukuumadiisa niyo ma inaadeer mid baan taleer ku siinayaa ee dhalinyarada had iyo jeer wixii ay tamaynaadeen hadii aad dood noocan oo kale u qabanayso
wixii caytama ama reer waa dejiyey taas waa dejiyey ijaafeeya naarta naga control waa kow waa laba waxaan kugula talaa ragga miisaan kale aad garanaysa waaweyn waxa weeye soo qabo oo had iyo jeer dhalinyarada waxay doonaan ay ka dhex dhici karaan ama iscaayi kara ama ay caadifad kale ka bilaabi karto laakiin haddii xisbi mucaarad loo hadlayo qabiil loo hadlin waa caadi la isqaraaca wax weyn ma aha ma waa caadi wixii siyaasada laakiin wixii reeranimo u gudbayay cay iyo waxyaabaha waaya bal iminka adigu ka hadalo xukuumadda iyo yaa kula qalday xisbi mucaaradka wallahi niyo anigu arrintaa horta anigu kulmiyaan mar walba ahay waxaanan jecelahay in maxaa la yidhahdaa wixii xal yimaado waxa weeyaan xal laga dhigo laakiin waxba arrintaas ma hoos uguma sii dhaadhacayo xalku waxaan jecelahay meeshan odayaalba ka taliya samataliska fara badan dib baa la isugu noqonaya iminka marka kulmiya haddaad tahay kulmiyow ma 2 sana biirsanaysaa xooga wixii xalka dalka ku jiro markay dadku dib isugu noqdaan saddexda xisbi qaran iyo madaxweyne dalka miyuu dastuur la ciise dalka dastuur ma la miya qoran walaal waxay ku faasiyo dastuurku hadii isagoo dastuur jiro hadii sheer waxyaabo dhici kara oo aan maxaa la xeerarku ay iska hor iman karaan imka tusaale laba doorasho isku waqti noqday waxaan isku waqti noqday doorashadii maxaa la xisbiyada iyo tii maxaa la madaxtooyada labadoodiba isku waqti bay noqdeen waana iska ogtahay inaan 2 bilood 3 bilood laba doorasho lagu qaban karaynin marka in la iswaafajiyo baa loo baahan yahay labadabana sharciga dhigaya oo ururada in 10 sano mar la furo sharciga dhigaya sidoo kale doorashada madaxtooyada in 5 sano ayadna sharciga dhigaya marka waa la iswaafajin doonaa xeer yaqaanada iyo madaxda dalka ayay waxa weeye xisbiyada qaranka ay u taalaa shacbiguna wixii ay soo saaraan ayuun bay mar walba raaci doonaan marka anigu taa wax weyn uma sii arko waana ku salaamaya daaro baashaana naga ilaali caadifadeeda naga ilaali waay shaakir haye عيسى وحوري قلت له أنا مسوي قرأت حرت واحد في عيسى دل كان يدد كان يشرح دي سيين تبون قرأنا رجيت أسطور كي نقرأ إن واحد يوجين ما أنت ما ها مالين لكن مالين كل وده كوني طبعا كمالين بهاي بس بيجوا ضد ريالة كاين دل كايستي واحد ضد كوكو قلنا صدق دي حسبية جوجي كل مية يوعد يوطني يوضب واحد كوكو قلنا صدق ضباب iyadoo oo liisankoodu dhacsan yahay macdala waa maanta oo liisanku shaqaynayo doorasho ma garanaysa hay kala horeysa ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa in doorashada madaxweynuhu 13 November tahay taasaana xaq loo leeyahay in la qabto liisanka ma garanaysa hay xisbiyaduna waxa uu dhacayaa liisanka xisbiyaduna waxa uu dhacayaa marka ay gaadho muulka naga galin ka dabo gujiska muulka gal way ku soo marka waxaa jira saddexda xisbi qaran ee maanta jooga ninka dambeyn iyo soo galay gujiska muulka galdaniyo gujiska muul gal oo qaatay soo waxaa jira marka waqtiga uu hadla daariyaal doorashada qabanayay saddexda xisbiya waqtiga jira waxa ku galan iyadoo liisankoodu dhacsan yahay waa liisanka xisbinimo isagoo ka dhacsan yahay oo ay yihiin waa anaa ka marqaatay taa waa ogahay ayay ku galeen aad iyo aad tan maanta la joogo waxa uu dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qorayaa in doorashada ma garanaysa madaxweynuhu soo horeyso 13 November tahay ta kalena liisankooda xilligu dhacayo mucaaridka ay tahay 16 December marka ninkay December iyo November iskaga galdantayo adag ku toolay laakiin dastuurku soo galooreysiyo waa ku mujaahidkii weynaa jacal guriga wadagaysanaysa shalay toole dalkan iyo dadkan موسى بيحي عبدي شرعي يسوق ليه هدي ومارتي طمعه إنه مقرن صحيح شيء كيس خصوص صارته وهو عن سوري قلين وهو عن شروط الدلك يدك وضع دكتين هين أو بالمرسل هدي تاسو على تمادنا واحد تمادا إن دلك يدك مر لبعض يمرسل حابة دب له حرية أو مقرن صحيح دينين واي جوجس هو مغلس دوت سوما ولا صوتا جوجس كرينا إيدا إلى أرمل بنجلي أرتوات أورنا عمو كوتشكو عمو هنا قال ودي أورد تايوي دي دارو تارما دي ودينا سوا ما كوري ما يوحي إيمان إنه جوجس أربعة بلنا في شورت بال فكر كذا سووا عبريو يفرع عندي الراديو قال أورد خير بدن ويدير تشيني وأني أورد وحوي هذا الكسبة من الله جمر ديكو أنا وقرحت سلادي سوبر دي شيء دوايا horta muuse ururo uu furayaa ma jirto
waxaan uu galgalanayo uu doonayaa waxa weeyaan waa muddo kordhin wuxuu doonayaa in isaga 2 sanadood loogu daro imanka markay aqoon-yahanka iyo dadka magaraysa wax karadka isku yimaadaan la yiraahdo muusana 2 loogu daro xisbiyada mucaaradkana 3 sanaha loogu daro oo muusa 2 sano uu fadhiyo dabeetana jeegaaniisamkii uu bilaabo oo nala khiyaameeyo oo dabeetana nin uu isagu ama garxajiso maqaar saaran anagu doonaynin ama nin jeegaana oo ina kaahin iyo wixii la mid ah uu meesha keenaa buu doonayaa waaya taana anagu waanu ka shirnay waanu ka horeynaa waanu ognahay waxa weeye annaga 2 xaalun bay noo taagan tahay waaya maanta qodobka garxajis kaliya 2 xaal uu taagan yahay laba hadalka waan idinka baxayaa waxa uu taagan yahay 13 November doorasho xaqna waanu leenay liisankii waanu haysanaa doorashadu way diyaarsan tahay sharci baa dhigaya haddii aad diido waa dagaal aad iyo aad daahiro war maqlayaa daahiro waxa ku sheegaya ninkan nimanka Muuse Biixi ururadan iyo waxaan uu ka sheekeynayay inuu xilka baneeyo waxaas isaga lama weynaa laakiin arrintu meesha ka qurursantay waxa weeye dalkan 30 sano ayaa dhinac walba loo jihaysanayay oo reer haysteen imika garxajis ama wadani ama dadkan mucaaradka ma doonayaan xil qura waxa la doonayaa dalkan in la xoreeyo dalkan waxa la doonayaa inanka fiqishani ee laascano jooga iyo inanka samaroon ee boorama jooga iyo inanka Soomaaliland bartankeeda jooga rashax saaqana u simaan dalka in dalka cadaalad ka dhacda la doonayaa dalkan inamada yareemka maqiiqani meeshan soo wada galay nin doonaya in Soomaaliland burburta ma doonayo laakiin waa nin og inuu cadaalad darro dalkan uu u shaqeeyo 30 sano oo dhinac walba u watay marka daahiro waxa ku sheegaya tan kale ururadana hadaan u galo horta arrinkan ururadu waaba iska qosolo arrin caqli gala maaha nin kale inta deegaankiisa timaado inaad ururo qasab ka qabato Soomaaliland kala barkeed ama 60% ninka Ilaahay ku beeray ee cod iyo dhul iyo dhinac walba Ilaahay ka dhameystiray waaniga oo nin garxajisa way mid kale aan ku sheegayay waxa jirta imanka maanta wuxuu marayaa ninka cawarani inuu ciidamadii shaki uu marayo inuu raado guuto walba soo waraysto qabiilkaaga soo weydiiyo warqad lagu soo qoro halkaas ay daahiro Soomaaliland 30 sano kadib maraysaa way mid aan yeelayo inuu ku sii fadhiyo dictatornimo oo dhacaysa ma jirto ninkii siyaad barashada ka xoreeyay dalka anigu ahaa بسم الله الرحمن الرحيم Soomaaliland oo muddo dheer raadinaysay inay noqoto dal madax bannaan oo Soomaaliya ka go'ay Soomaaliland oo buuxisay shuruudihii looga baahnaa dal madax bannaan sida dastuurkii lacagtii iyo waliba inay noqdeen maamulka kaliya ee sameeya doorasho cod iyo qof ayaa waxa muuqata tan iyo markii uu qabsaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi inay xaaladihii Soomaaliland isbedeleen iminka Muuse Biixi Cabdi ayaa la xaqiijiyay inuu doonayo inuu waqti korar sameeyo oo uu muddo adigu lagu qiyaasay 2 sanadood inuu biirsado inuu doonayo dadka reer Soomaaliland arrintaas sida muuqata gaar ahaan xisbiyada mucaaradku aad bay uga caroodeen oo wax muuqata in ay dhici karto xilli kasta in Soomaaliland xaaladeedu ay faraha ka baxdo cabsi fara badan ayaa mataqaanaa ay ka muujinayaan dadweynaha reer Soomaaliland ayadoo xal la sheegay in burca ka baxeen ciidamo jabhad ah oo doonaya inay ka hortagaan maamulka Muuse Biixi Cabdi oo wada inuu mataqaanaa uu ka taqaluso xisbiyada mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani iyo ucud oo la rumaysan yahay inay leeyihiin sharciyad oo gaar ah marka culimada dinka Soomaaliland baaq wada jira ay ka soo saareen arrinta ku saabsan xiisada ka taagan Soomaaliland sidoo kale ardayda jaamacadaha ayaa waxay ugu baaqeen madaxweyne Biixi inuu xaaladda faraha ka bixin oo mataqaanaa uu xiriyo ugu yaraan marka arrimahaasi oo dhan ayaynu dooda ku eegaynaa Soomaaliland yaa doonaya yaa colaadda Soomaaliland horinaya ma xisbiyada mucaaradka mise xukuumadda Muuse Biixi Cabdi maxaase ka jira warka sheegaya in heshiis uu dhex maray Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi kaasi oo ku saabsan in 2 sano oo waqti kororsiya loo sameeyo Muuse Biixi maxaase ka jira qorshaha Muuse Biixi uu wado ee ku saabsan inuu ka taqaluso xisbiga wadani iyo ucud oo uu ku bedelo gaboose iyo xisbi kale arrimahaasi oo dhan ayaanu ku eegaynaa dood dadweynuhu way soo geli karaan barta TikTok Habiqleysa group ayaan u fasaxayaa oo ay soo qabsan karaan sida muuqataahi waxay leeyihiin beeshu garxajis mataqaanaa oo kale
waxaa la suukayn tegey oo la yidhi soomaali weyn ayaa u socotaan 94 raggii suukayn tegey oo ka mid yahay muuse biixina kama yeelaynay leeyihiin iyo maxamed kaahinba in haddana mar labaad ay dhiiggeena bannaystaan cabdiraxmaan tuur ayay xabad uga saareen madaxtooyada oo yidhaahdeen ma fadhiisan karti kursiga saa darteed cabdiraxmaan ceriir faysal koona ma fadhiisan kara kama yeelayno sidoo kale beesha habar jeclo oo ah beel weyn oo somalilan saamayn ku dhex leh ayaa aad uga cadhaysan habdhaqanka mataqaanaa muuse biixi cabdi oo ay ku eedaynayaan in siday ugu liseen uusan ugu hambayn maxaa yeele waxaa la wada xasuustaa habar jeclo inay dhammaantood taageereen muuse biixi kursigan inay ku fadhiistaan ay ka shaqeeyeen iyagoo kursiga u baneeyey balantiina furiyey maxamuud xaashi cabdi oo nin rugcadaa oo siyaasadda aad ugu xeel dheer somalilan marka laga hadlayo ayaa xilli hore ka carooday habdhaqanka muuse biixi laakiin hadda dib ay ugu soo laabto waxaa leeyahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa loo wadaa xaalku iminka cirka isku shareeray dhaar carar iyo wir ah ayay maraysaa wax kasta ayaa dhici kara muusena wuxuu leeyahay anigu ciidan ugu filan baan haystaa cid kastoo haashana madaxa ka garaacaya sida aan rabo ayaana ka yeelayaa somalilan marka xisbiyadu waxay leeyihin saarabti kama yeeli karti dastuurka ilaali marka xaalado adag ayaa mataqaanaa ka taagan dhinacii somalilan oo aan la dhayirsan karin marka loo fiiriyo waxaa somalilan ay qarka u saaran tahay dagaal sukeeye colaad iyo in dhammaan haydihii dowladda ee la soo dhisayay ay burburaan in nabaddii ay dhammaato in dhuljiifa uu dhaco in ku dhifo ka dagaal ah uu bilowdo in ilaah dhaqaalaha la weeraro ama la qabsado in ciidamadii dhammaa ee muddada dheer laga shaqaynayay ee la hagaajiyey ee quruxda badnaa ay kala tagaan oo qaab qabiil u kala baxaan oo baawur goose u bilowdo ciidamo goose u bilowdo arrimahaasoo dhan baa taagan marka yaa iskale qaladkan maxaase diidaya in odayaasha dhaqanka iyo culamaa udiinku intay iska dhaafaan laba canlaynta iyo laba wajiirinta ay si toos u hadlaan oo ay dhahaan arrinku waa sidaa iyo sidaa ay soo baxaan haddii la xallin waayena gogol ay dhigaan oo ay war loo dhan yahay ka soo saaraan dadweynaha ayaa qadka telefoonka u fasaxaya war somaliland waxaan leenahay maxaa la yidhahdaa musabixa iska qabtaan wixii kalitala soo dhan horta la iska qabtaan leeyahay waaya oo dowladda maxaa la yidhahdaa jibuutina ku dirtaan jecla madaxweynahan cumarna laga qabto maxaa la yidhahdaa waxaa kaloo jira daayiro annagu haddaa iri saamaalanahay meesha maxaa la yidhahdaa city maa garanaysaa dowladda etoobiya haa garba ciise xasuuq baa ka dhacay cafartii baa xasuuq ka geysatay mustafa cajarna waxaa leeyahay wax gurmada uma dirin dadkii xasuuq baa maalin kasta lagu wadaa mustafa cajarna kama hadlayo waxa qabanayana mana wuxuu leeyahay dadkaas maxaa la yidhahdaa dasqayb ma lu leeyahay waaya ma garad waaya barnaamijyada badan baa laga sugaya daayro madaxda isku doortay gudoomiyaha maxaa la yidhahdaa ir Soomaaliya waaya ballan way waan hagaajinaya boqol xasan waa hagaajinaya bes way dhatay ku soco arrinkaana anagu gudoomiye joognaa gudoomiyeyna tahay markasta dugaa waaya yubo soo dhawo waxaa weeye somalilan haysati taagan tahay xisbiyadii iyo xukuumaddii muuse biixi asu dhaaranaya yaa qaldan xog ma ka haysataa xisbiyadii iyo muuse biixi qaldan muxuu ku qaldan yahay xisbiyaduna waa saxiix ii sheeg muxuu ku qaldan yahay xisbiyadii la balaayay si xukunka isaga haysta marka cidda xukunka haysta markaas qaldan waaya qata ay u jiraysaa waaya ninka la yidhaahdo Jojo Coco Thomas أبلاي مسلم فيزا نقول صاحب نقول تنزانيا كوي عليه ولا قلك كذا أحمد مو قال واي جوجو بمغلسة جوجو سوق خش عليه لا سوق دارو أو خش عليه سوق الياسو هذا دارو سومالان من حسبيه معارضة غلطان مثل حكومة المسبح لا غلطان يا وضع دبعتها معارضك غلط صومع معارضك غلط صاحب وانت عديس بدليسو وين فلسطين وقت يقول شباب ده وحي ليه دورشه هلا عادو حلق صح لها دورشه وقت يلا la qabanay ururadii baa la furay aniga laftiga urur baan ku dhawaaqay daayado ururadaas laga faa'iideysanaya safka la soo galo waa sidaa weey waaya qadra sidee qadra haye qadra تارون كسلامي ولا لا وكاقاد هيا قدر حزب المعارض كي ما مقليسا ها واكو مدحوينها الى قلدان وايي waxa weeye inuu doorashada xilligeedu ku qabto aan xisbiyana ka daba furin waxa weeye madaxweynaha waxa weeye inuu doorashada xilligeedu ku qabto aan xisbiyana ka daba furin waxa weeye madaxweynaha waxa weeye inuu doorashada xilligeedu ku qabto aan xisbiyana ka daba furin
haye laakiin isaga waxaa leeyahay inuu ka taqaluso doonayaa ucud iyo wadani hargeysaan ku suganahay dee waxaan doonaynaa in doorashada la qabto oo aan qalalaaso waddanka laga ridin iyo dhibaato bal ka wara soo yahay shucuurta shacabka saytaa balna warbixin naga sii dareenka waa sidee shacabka Soomaaliland waa shacab aad nabadda u jecel mana rabaan inay xabadi ka dhacdo nabadooda ilaashanaya laakiin nimankan dawladda bay isku haysta ayuun baa waxaan sameynaya waaya kordhi socodka gabadhaas aan u yeelaya gabadhaas bal ayada aan dhegeysanayo qiimeynteeda anigu waxaa leeyahay Muuse qaldan ii sheeg weli kama dhicin inta hubkii laga ururiyay magaalada ina gabiile la geeyo هاي محوسة موسى يشك. هدو ساو بقنا يا وينو ده دور الشدة قطع. ده هو بكل مجال ده على قاعد قبيلة يبوجي. سموه إن أنت هم مدح يلا وطنكي. ويا كو. هو كو قريب قبيلة ولا جي مجال دي إذا ما دي ولا جرّي ولا جبي حي ومجال دي. هلا بعد موسى هدو سانو بقنا يو لغاية بترتا كبير صدق بكو صابي حلا ده قطع. ويا يوجد قد كل ساعة كا. تاريخ دي سياسة لم تلسا وقلب الرمت أو شيء. يوجد قد كا السودان كبارك مية أوف ساقري مثل قف كلوي. سودان كأنين وريا بتاعي أو هرمها سومالان آد ومتقنا ودون درلا أو كي يدوروا سومالان. يا قدر موسى حكومة موسى حزبية معاركة يا قدر أو رادة. حزبية معاركة يا آد وقدر صوتها وحركة سومالان وحول لقيا إن لفرو حزبية إن هوها si loo furo commission ama loo sameeyo xisbiyo cusub marka waxaan soo oran karaa labada xisbi ee ku baaqay dagaalka ayaa qaldan sida wadani iyo xisbiga ucid oo iri xabada la isku dhigo tan waxay noqonaysaa Muuse kullayba in sanad loogu daro ayay noqonaysaa sida wararku ay dhigayaan ama xeerka Soomaaliland markii hore marka la isqabsado kale Soomaaliland waxay ku fiican tahay guddi baa la isku tagaa guddi odayaal dhexdhexaadiya هذا جودي أنت كسر دليري وحنا صرنا يا واحد قلدان حسبية ذا معارض كا هذه أي سلام قصي سعودنا موسنا وحنا نقول كرتا إنه يسقونا وحليش يا دجال صادال دجال لقى بقيو الفود اللي استلم ويا سلطان موسى بيحي وحلي هاي هو كي ورطي جميل يوجستي سعد موسى ودولا لقالي ما حيكون عيسى مركب محو سمين يا واحد قبيلات ده هو كي ورطي محو سمين يا موسى ويسيلالنا يا لا شري لا هو ما يسألنا بهوكن وهو في شعب ده هداد ساعة دوم مدحوينه وبقنا يسيد وما أنت هو بكاد مقالة كده في الرسالة اللي وحي يسكو قرمنا يا يسكو قرمنا ما عارنا دو يمو كيتوب يمي دكين واسكو دكين لسه وده هاي سقى دورنا شبه موسى أرنتي أكيد تاريخ سؤال ساعدين ولا بس أنا كتشري وهاسي ومش كفاية يستمر كده من الإدارة مشاهدة بس قرق لا صوتك على هو متى ويا ما أنت هنشبالي الرولة والله إنكرا وكتر نادى لا سلو كتر تاريخ ديسي أي دايت كلا بس موسى كتر هاي حركة سؤال المنطقة يا إنفس بيا الفرو ها ماما والسؤال شيء الدور إني أسمع هلا كده دور فريا وعن عصا السودان حزبي كلبية أو وقت كان عاي إن لو أقول دورشين في قلب قلب هاي شرعية الله مريا دين الله فرلك حسبيده شرعية الله مريا موسى تبغى لكن واحد نقول الساعة دي صدر وبصي صعده موسى هو كبقيا قدر أبكي أقول لك محنع قدر تلفونك كوسه دو هيرفون دوك وجرس كسان معاتل والله لا أنا بهرجيسان نشوفنا إنه بقى موسى وأنا دورنا هنا وحنو لنا دور الشذا أنا كدورنا هنا أحبها بقينا هو بسوي علي وضع أنا حسيلونه بسوي علي مركا هوكم محوق قادنيا محوكا بقنيا دينيو عقاشو محوكا بقنيا موسى بيحد وعن قال الله محوكا بقنيا say wax u dhacayaan Suldaan Nuuriya waa tahay marka Soomaaliland imika qiimayso Suldaan say wax u dhacayaan bal qiimay
سلطان كان waxaan weydiiyay meel baan sii tagayaa mid baan u sheegayaa say wax u dhacayaan sultan haddaan soo jeediyo Somaliland qarka waxa u saaran tahay dagaal ba u saaran tahay laakiin haddii Muuse Biixi uu tanaasuli waayo oo ama qaban waayo doorasho qarka waxa u saaran tahay dagaal ba u saaran tahay laakiin haddii ay ku sii dhagax adaygaan ama ay ku madax adaygaan xisbiyada mucaaradka sida wadan iyo ucid oo ay sidaa ku sii adkaystaan Muuse hubkiisa wuxuu ku qulqulinayaa gabilay oo isilaalinaya haddii dagaal dhaco suu iskaga difaaco wadan iyo oo kulmiyo ucido ku baaqay in la isku dhiga xabadda dhalinyartuna marka Somaliland meel xabadi ka dhacda ma sultaan oo ciidamo ogola xisbigiisu waan ku siinayaa laakiin Muuse sanad loogu daro madaxweyne kasta sanad loogu daro marka sanad loogu darana yeelmay 2 sano doonaya in Maxamed Kaahin uu ku wareejiyo واي احلام حبيب احلام ابيب تما عدي سو دو وعليكم السلام واي سلطان كل نولاده انت اصلا اي احلام هي احلام بالمحاصع احلامي ولا لوانك سلام يا ظاهره كل سومالي لا دغال way aragtay dagaal cidna laab ma xaadharayso dhalinyarta Soomaaliland way ka midaysantahay inaanay dagaalamin diyaarna uma aha khalalaasa dhaca maxaa la yiraahdaa labada xisbi macaarid baa sheegaya labada xisbi macaarid liisanadoodu way dhacayaan laakiin waxa weeye maada dhigaysan maanta ardadii jaamacadaha soo hasho tiri haddii Muuse uu aqbali waayo dagaal baa dhacaya walaalo shaax baa ka hadlinaya dhabdhab markay noqoto Soomaaliland dagaal diyaar uma aha madaxweynaha waxa isku soo beegmay doorashadiisa iyo maxaa la yiraahdaa liisanadii doorashada nimanka la gali lahaa inay dhacayaan madaxweynuhu wuxuu haystaa qodob u kordhinaya inuu muusii wado madaxweynenimadiisa waayahay qodobkaas dastuurka Soomaaliland kuma yaal kordhisku waa xeer jab laakiin ma aha dastuuri ma aha haddii aysan jirin dee xaalad bini'aadanimo dagaal sukeeye laakiin qodob ku haystaa waaye aamina cabdirasaaq maqlaysaa dooda doonta gabadha ma maqlaysaa daahir Cabdalla Ali Sow iyo dhamaan ha walaal si fiican aad baan salaamayaa haye ma la qabtaa fikirka gabadhaasi ha walaal si fiican waxaan leeyahay sidii maxay toolay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo lagaga guuleystay markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qabsaday wadanka Soomaaliya iska daaya reer wadani wabaadayo oo inta waxaan leeyahay maxay toolay wadankana qalalaasa iyo burbur iyo dhibaato ma baahna nabad baynu ku caanamaalay cid walba nabad baynu ku dhaafnay geeska Afrika waxaynu nahay calaamad aad u qurux badan haynaga xumaynina reer wadani walaalo wabaadayo oo inta iska daaya meesha doorasha taala xagaad sidii qoladii reer abtiga ee daarad wabaada u burteenad meel walba uga qaylisanaad xabad iyo siiro u qabsateen war wadanka uu qurux badan yahay aad buu qurux badan yahay calaamad baynu nahay geeska Afrika naga daaya waxaad wadaan adigana aad baan kuugu mahadcelinayaa sidaad mar walba u taageerto Somaliland iyo jamhuuriyadda madax banaanideeda iyo okay qadka igu jir gabar kale inay ka fikir doon tahay laga yaabaa u yeeriya kordhi socodka haye waad maqlaysaa wadani waxaa la iska laga daayo ooyinta iminka daahir anigu waxaan taaganahay naagaha dumarkan waxay ka sheekeen waa qiiro jabaan meesha hubkii waa la qaaday dagaal baa ka jabay ciidan maanta Hargeysa ma dhex joogo haddii 2 sano Muuse loogu kordhiyay inuu dagaal dhaco oo 2 sano la xijeclaabay kii qaxi jiruun baa qaxaya yaa qaxi jira marka hore dadka wada yaa qaxi jira dadka wada jira Muuse reerkiis wax diyaar raaciya wax dumarka la qaxay noqon marka baasho qabiil miyaad iminka ku hadlaysaan mise xisbiinimo aad u hadlaysaan anigu xisbiinimo ma hanaya labada qabiil midna anigu meesh haye adu qolo maata noo sheeg habaryunis baski ka dhashanaa gabar jeclaamani habaryunis soo reebtay tahay laakiin waxaan la yaabay ina maanta uu Muuse 2 sano uu dalka dagaalka ka dhaco uu la jeclaabo Muuse imika suuqi Hargeysa Muuse uu gubtay ma ogtay daahiro suuqi wahan ha wali ma la calaamadiyay ma jirto oo leeyahay dayirta waa la idin dejinaya waaye iskiin baa lagu tooda soo dadkii hoos looma eegayo waxaana kale waa dhibaato hooyinku bacad kibay wali fadhiyaa حتى لما أرد إسكي وحق بصدا
وايا بل aynu sino Somaliland gabadha aynu sino bal kor socodkay ha ku jawaabtay daahir waxaan u malaynayaa meesha horta qabiilkeeda tahay inaan la is oran doonin wixii reer Somaliland laakiin iminka idinko xisbiya ah oo kulmiye ah ma taqaanaa haddana oo wadaniya markastaba xaggeena Soomaalidu qabiilka kama marra صح oo iminka waa maqlis markuu Faysal hadlayay markuu cirra hadlayay wuxuu yiri Cabdiraxmaan Tuur baa hadda ka hor loo diiday kursiga oo la yiri Soomaali weyn buu nagu wadaa iminka wixii Maxamed Kaahin iyo Muuse Biixi nooma adeegsan karaan waad maqlis odayaasha dhaqanka xajiska juun bay ku dhawaaqeen ka hor in la soo wada xaroodo wixii jabhada ahaa SNMT dagaal baa la ilaamiyay burcaxal ciidan baa ka soo baxay Nurjiifa oo buuraha galay ma taqaanaa sheeqay bur sheeqay galay marka waxa soo dhan mi ku muuqan muxuu Muuse Biixi hubka muxuu u ranayaa Muuse Biixi أنا كاسو ري بليس يرحتران إدغيس ظاهرة waxa soo dhamiyado walaalay jirto hadana gudaha Soomaaliland markaad joogtid waxa ma dareemisid waxa soo dhan aan ka socono Muuse Biixi marka la leeyahay xilkiisu uu ka dhamaaday xisbiyada qaranka laftarkooda xilkooda iyagaba way ka dhamaadeen oo xisbiyo qaran in la furo meesha taana indhaha ma la iska ridi karo madaxweynaha hadii la leeyahay bisha 11 bay ka eegtay xilkiisii xisbiyada qarankana walaalo way ka dhamaadeen waa in la furo xisbiyo mucaarad oo la tartamayaga dagaalka la sheegayna Muuse Biixi uu dagaalamay markii uu mucaaradka ahaa oo madaxweynaha uu rabay marka waa faataabaq waxaan Somaliland xabad ma ka dhacayso xabad Soomaaliland wixii hadlayaan ha iska hadlaan xisbiyadana in la furaan anigu jeclahay xisbiyadana soo dhaweynaya nin dalka lagu aamini karo Muuse ninaan hayno maanta dalka lagu aamini karaa ma jirto marka xaqiiq la sheego ma ila lagu aamini karaa Faysal Cali Waraabe ninna ma lagu aamini karo Muuse anigu ku aaminayna Muuse haduu dhaco adiga isaa qoloma ka tahay isheg anu habar jeclaanahay ما هبر أول بعد تاي بس هبر جعلها تروك شيء. هبر جعلها هاي. كل تو برنسيش كا مثل لجستو. قبل هبر أول أدو عليك تبرك لك شيء قلبيت بعد وقتها هذا الكاغ. هبر جعلها هاي أنا هبر. يا كوري أبتيا. وان كده يا داهر كلمة داهر وان كده كلمة الطلبات والبانتين اللي بقول أكونوا عيدهم تتابعين. سندح بق. دون يعني يقولون بس صادقين. سندح بقول بالجي. أي صادق. داهر السلام وفكرتها ما كان قيب قاعدة أنا وديل حبلوني في شوابان ما قفل فكرتها كقيب قاعدة. أوكي هاي ويا كوسالو. ما يس أنا ما يستاخرت. ما أرتني كاس نقص بير عسين كده واحد دونتا. ولا هذا قف بعد شواب يسميه شواب لما بعرف كلي إن هذا شاطر هذا قف. ما سك هاي أوكي قبل أريد هندد قبل هندد نداء قبل هاي صعب. siyaasadii baa lagu kala adkaaday ma garatay waxa iyadaan qabiil iyo xisbi loo kala saaray xisbiyada yaa siyaasadda ku adkaaday meesha xisbiga kulmiya siyaasadda ku adkaaday labadan xisbiga kalena markii siyaasadii laga adkaaday waa inay sheekada waaraan oo ay dhahaan siidhibaan tumeynaa xaggan qabiil la kiciyaan waxaanina wax la isla yaqaano dee waa baalaxoofta weeye waa yacni ninkani doorashada ha qabto maadaama Muuse Biixi ku adkaystay inaanu doorasho qabanayn marka hubka uu raranayo hubka uu gibilay geeyay muxuu u geynayaa hubka sab taas waa been weeye hub uu raraya ma jirto laakiin doorashada uu ku khasban yahay inuu qabto cidna uma diidana doorashada in muxuu uu qaban waayo uu ku khasban yahay doorashada reer Soomaaliland ma ka soo horjeesanaya laakiin inay ragga iska baalaxooftaan oo dadka ciyaan taasina waa khalad weeye oo haddii caawinta dhul jiif dhaco laba baawr la gubo ama dad la laayo ama saldhig la waxeeyo ama meel la waxeeyo maysan xaaladdu cirkiis ku shareeyno jufo iyo qabiil salka xisbiyo isbedelayno waxa yar hagaagsan dastuurka la sameeyay lacagta taala nabadda lagu naaloonayo waxaas wanaagsan oo dhan maysan burburin aawe rag ganacsada iyo culimada diinka laakiin Muuse Biixi ulama yaqaanin muxuu ahaa hub goranayo qabiil ligin waxaan wada qolo Facebook ka wado mucaarada waxaan wada wax hub la gurayo meeshii korna socodka ninka hub ma gurta ma sama gur gabadha hor jeclaa siinaya ninkan wuxuu lahaa hub ma jiro ninkan wuxuu ku waalwaa ninkan waa wariye daayo kula hadlayo gabadha habar jeclaa ma korna socodka habar jeclaa adigu galbeed baa u burno sheegtay hay waxana dambe bas galbeed ma hii habar jeclaa habar jeclaa qolo ma ka tahay ana iminka ilaan aqoon oo habar jeclaa soo qolo ma ka tahay labadiina hadda masku amba gabadhan si adag ha wada shabada hadalka jilicsan iska jooji malaade wadiga cid kaama dhimanayso
ما يقعدنا هبرت على داتا قولها كتا شيء قالوا حنو أقانا راسي جف أنو أقانا ugu hooseeya haddaan ku sheego reer daahir baan ahay ilaadeer gabar reer daahir oo geerjiro ah si kale u dhawaaqi lahayd haye gabar laandheeraha oo reer daahira waa la garanayaa haye waa yahay bal ninkaasi hadalka uu yidhi cid ka jawaabta oo mataqaanaa si adag uga jawaabto ayaan raadinayaa oo soo qabanayaa oo daahirow talaba dhulbaantiinimika waa diyaar soo ma ogid isaaqanu ma ogid dhulbaantiina hubbay soo diyaarsanay ciidan say laascanudu qabsadaan oo waxay tihiin Soomaaliya markay ka yeedho idinkuna ku bilaabo faruntii bay joogaan isaguna hubbu gabiila ula qaxayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والله ما تاي يمكن حد السوالف هيا هذا الكواد مقليس جالك الحد سو نينكي هوراركا كدي كواد مقليس هذا بارت فكرة مركورة هرتا شعبك الصومالي لان ويس بدلي وحاول سو بدلي معارض وايه موسى صدي ضلك وكفش المي وايه والبا او سومالان دروغي وايه كليا تا ضلك وحو كسو كديي قبيالد يا عفي dadkii shacabka Soomaaliya u kala kixiyay waaya isaga inay ka hayl yiraahdo laba korneel waxay doonayaan shacabka inay caburiyaan waaya xoogna waxba lagu qabsado waaya dadku inay Muuse bixin naceen waxaad ku ogaanaysaa meel walba doorashadii dhacday Soomaaliya ka dhacday baarlamaanka iyo golaha deegaanka ha waa laga adkaaday waaya xisbiga kulmiye la dalkay waaya sagaal bilood ka dhacday waaya waxa ku adkaaday mucaaradka waaya gobol dalka Soomaaliya ugu weyn lixdiba mucaaradka ka taliya golaha deegaanka iyaga ka gudoomiyii baarlamaanka waa laga adkaaday xisbiga wadani baa ka adkaaday waaya meel walba dalkii mucaaradku kula wari waaya nidaamkii dawladnimo haddii systemkaaga la naco ma aha dalka inaad burburiso waaya sabixi waa askari aqoon male cid walba oo ogtahay dadkii markay naceen tulkiiba nacay cid kala daayo waaya qadkii ugu jira gabadhaas Aisha siinaya igu jira qadka adiga waa lagu baahan yahay halka ay fadhi Aisha aye ma maqlaysaa ninka odaga yaraan dhameeyo daayro waxaan dagaalahay kuma harin waa ku su'aalahaas waa ku weydiin doonaa gabadha Aisha siinaya Aisha aye nadarood mahadsan tahay sid fursada ay siisay laakiin ummadda iyo dadka iyo dawladduba waxay rabaan ciro annaguna ciran ku taageersanay musabixi waa jaahil xisaabta ma kala saaray intuu dal xukumo qorigu doonay inuu wada ku xukume waaya qof saddexaadan bal soo qabanay adiguna iminka xisbiga wadani baad taageersan tahay waxaad leedahay Muuse Biixi waa qaad kale musabixi taageersanin annagu wadani baan taageersanahay wadani baan jecelahay inuu soo baxo wadani baan doonayna waayahay ninkaasaa siinayaa oqal haye ninkaas lagu soo biiray ka soo bax muudka haddaa ay dhegaysanayso oqal waayahay ninkaas waa ka gudbaynaa maadaama uu muudkii uu ku dhegay marka qof saddexaad baan rabaa intaan ninkaas su'aalaha weydiin inaan soo geliyo qof saddexaad baan rabaa inaan kuu soo geliyo hadduu kaa fikir duwanaysa u qiimayno oo aanu aragno bal meesha wax ka socda qof xoogaa haddii la heli karo haddii aad arrimaha Soomaaliya ku xeel dheerayn hanaga buuxinin sabuurada qofka saddexaad soo gal ma maqlaysaa waaya qofkaasna imaqlibayo waaya ku socdo Suldaan meeshu qabiil ma taagna qabiyaado ma taagna Soomaaliya waa qaran waa la wada leeyay muhiimadu waxa weeye doorasho dalku markuu isbedel ka dhaco nidaamka markaa jira haddii aanu shacabka kasban qabiil waxba laguma kasbado iyo dagaal toonaba waaya shacabka Soomaaliland kulmiye way naceen waana la iska raacay waaya waa tamaanta Muuse talidii kaligiiba ku noqotay waaya walba hadaa eegto waaya ciidankii qabiyaad u dhaxligay shacabkii qabiyaad u dhaxligay kibigiisu waxay ka soo dhaqabiyaale waaya arrin ma ayo wax qabad muu qaban adiga saxiib barri baa ka jira
سلطانك أورك وتايه سوماليلاند قد مذوب كوري وايه طرف إلا طرف وي عبانيسا بيلي طرف يدو وي عبانيان وايه مeel walba dhib baa ka taagan وايه markaasi Soomaaliland lagu soo celiyo wadadii imika sultaan maxaa dhacaya waxa dhacaya rabaa inaan ogaado maxaa dhacaya maxay ku dhamaan kartaa bal saadaali waxa dhacayo ha wax kala dhici maayaan shacabku way tashadeen waxayna ku tashadeen nidaamka keligii taliyaha ee qabyaalada ku dhisan in dalka laga saaro waana laga saaraya Soomaaliland waxba ku dhici maayaan Soomaaliland muuse bixi hortiibay jirtay dabadiina waa jiraysaa isaga oo taariikhdiisa isku xumeynayo waaya ninkaas waaya balaag baa siinaya balaag horta waan idin salaamay waay tiya horta leys weydaarsanaya waay yaa qaldan bay kula taarto marka nooga bilow yaa qaldan xisbiga mucaaradka mise xukuumadda horta doorashooyinka haddii la idhaahdo waqtigooga lagu qabanayaa oo lama diidana se mid baa jirta ay xisbiyada mucaaradka ka ordayaan oo ah in ururada imika la qabto doorashooyinkoogii taasaana keenaysa waxaan ama kacdoonkan ay xisbiyada mucaaradka way halka idin arrinta ognahay laakiin imika yaa xukuumadda miyaa kula qaldan mise xisbiyada hadalka soo tub xisbiyada anigoo hadalkayga soo duuduubaya oo ku hadlaya afka xisbul xaakimka waxa khaldan xisbiyada mucaaradka waaya qadkaad igu jiraysaa ku baana burca tu aan u yeeraya burca yaa qaldan xisbiyada xukuumadda والسلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام يا مرحبا وعليكم السلام الله waxa weeye oo tadaahirow fikir wanaagsan baad keentay waxa weeye mar haddii horta meel aan waxaan hay isbedel doonkaan waxa weeye meel kastana wada tahay oo isbedelku inuu caafimaad u yahay muqdisho wada tahay maanta halkii shalay taagneedii halka maanta taagan tahay waxa weeye ninkaas aan isku afkaarnay anigu ninkaas sultaan ku taalo waxa weeye isbedel baanu doonaynaa muuse biixi iminka hub uu rartaa lee walkaaba run baa hub uu raray hubkii gibilayo ku rarayaa lee u daldalayaa dagaal buu diyaar u yahay arrinka ma run baa waxaa soo ilaa iyo 3 cisho horta waxaan kuu sheegayaa horta niyo rabitaanka shacabka cidna isma hortaagi karto burca ku soo dhawow telefoonka qabiil buu bedelay anu ninkayga kula hadlayna habar jeclaa baan ahay waaya laakiin arrintu waxa weeye qabiil buu bedelay sidaa hadduu isaado qabiil u bedelaa waxa weeye Somaliland god bay gelisaayo burburun baa ku imanaya laakiin rabitaanka shacabka lisma hortaagi karo dadku waxay doonayaan isbedel wixii iminka yimi wax ka duwan waxa iminka jira wax ka duwan baa la doonayaa caqliyada ma odhanayso waxa la isku hayo maanta suldaankii guud ee beelaha awal baa sheegay war doorashadu 2 bilood bay jaanis haystaan xisbiyada mucaaradku iyo sida saxda tahay waxa weeye rol modelka caadiga doorashadu waxa soo horeynaysa xisbiyadu in la furo lama diidana doorashada qabatinkeeda iyo madaxweynaha doorashadiisa soo horeynaysa 26 cisho malinaya iyo bil waxay tahay cidina is amaahin mayso jaaniska cidina siin mayso muuse waa looga fadhiyaa inuu doorashada qabto madaxweynaha yimaado bana halka ka sii wada ka sii ambaqaadaya furitaanka ururada okay balaag wal adiga qolamaata kulmiya hawla ka qolamaata nin Somaliland ranahay qabiilka de daahiro looma soo gurin maya ninkaas waa garanno habar jeclaan ku yiri ninkaan hoosna waa weydiin doonaa adiga qolamaata iscadee habara walaanahay haddii ay ka tegi weydo nin habara walaanahay waaya sultaan adiga qolamaata aniga anu naarwan nin alabaata waaya li halkaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada waayahay suldaanka waxaan weydiiyey maxaa dhici kara adna waxaan ku weydiiyaa balaag weel haddii xaalad saa ku socoto maxaa dhici kara horta dalka suldaan u kaadi balaag weel ninka habar awal baa sii maxaa dhici kara kulmiyow horta dalka xukuumad baa ka jirtaa dal weeyi dimuqraadiya 31 sano jirtay xukuumad baa ka talisa
amni amaan baa horta lagu joogaa waya maanta haddaynu idhaahno dadkeena shicibkee cid walba leh aan dagaal ugu yeedhno khasaarun baa soo koobi master kulmiye su'aasheedu waxa weeye maxaa dhici kara bal aan la isbixi maxaa dhici kara saadaashaada markii saanba u record garayno maxaa dhici kara live baa laga daawanaya Facebook kala socdaan shacabkii YouTube ka laga socdaa website waaga soo laga socdaa Twitter ka laga dhageysanaya maxaa dhici kara daahirow waxba kama dhacayaan dalku xukuumad buu leeyahay amni buu leeyahay ciidan buu leeyahay waxba kama dhacayaan dalku waaya burco ninka mar jeclo xisbiga la socota adigu ma wadani baa tahay ma cid baa tahay xisbiga la socota burco walaal ma santa daahiro waan wahanay xisbiga wadani baan ahay waaya maxaa dhacaya maxaa dhici kara bal saadaali walaal waxaa dhici kara mar walba sida khayr ku jiro ilaahay baana si khayr ku jiro marna ugu rabnaa hadaan u nahay isbedel doonka wadada wanaagsan baanu saleenaa marna laakiin se haddii uu sidan ku adkaysto oo ninkan askariga ah uu damco inuu muquuniyo shacabka iminka maanta xisbiyada mucaaradku waxay dalbadeen in mudaharaad salmiya lasoo siiyo wasaaradda arrimaha gudaha ka dalbadeen haddii ama mudaharaadkaasi ha dhaco ama waxa weeye yaanay sooba bixininba haddii ay dhacdo inuu ishortaago caburin sameeyo daahiro waxa dhacaya wixii 91kii soomaaliya ku dhacay unbaa dhacaya taadiga laftigeeda jawaabteeda meel looga dooni maayo marka iminka arabkiin iyo habar jecladu xisbi isbeddeldoonka aad taageersantiina u fahmay dadka soo hadlay habar jeclo ay ahaayeen ee suldaankii dhamay arab oo soo halka ku jira marka idinku mucaaradatiin isbeddeldoonaatiin isbeddeldoon baan nahay waxa weeye واي هبر جعلمية إن مقال هبر جعلمية إن مقال إن محمد كاهن اللي يجري لو سنة كدي بالو سينا يا حلك أو هذا لو شرحيا لو سنة نقول تاجر هبر جعلمية إن مقال محمد حاشي اللي قدومي حسب كل مية تاي إن تاجر ورك هبر جعلم سو جاري daahiro wartaniyo free bet oo siyaasadda wada socota Soomaaliland iyo Soomaaliya wax wada socota waad ku maasantahay laakiin dib baan ku sheegaya walaalow waxa weeye dabkii baxaya dab lagu qabsadaa annagu habar jecla markaan nahay horta kursiga imka waxaan ka sii maqanahay inta Muuse imka haystay kursi runba wanaagsan anigu in maxaad ku korabaan hayo siilaayaan xignay uma ciil qabno maanta kursi maxamuud xaashi dad ooman iyo waxa weeye maxamuud xaashi si kale xul doonayni hadduu xisbi furanayo hadduu xisbi kan imika xisbiga wadani laftigiisa anaa gudoomiye ka cid iiga rajo dhowina ma jirto mustaqbalka habar jecla markaan eegaayo aniga wadani baa rajadaydu ku xidhan tahay sababtu tahay qoomiyadda maanta doonaysa inay isbedel 30 sano aan kursi arkin ee maanta doonaysa inay dalka qabsataan garab siinaya marka maanta garab siiyo iyaga saaro xaq baan u leeyihiin waa dad reer Soomaaliland dara waa niman reer Isaaq waan wada dhalanay kuwa shalay kuwii saaray iyo kuwa aniga xaweeye maanta saareen anigu aan saarayba markay soo ay oonka ka baxaan kalka ku xiga waxa uu garxatis baa iskale markay ku digaan ee ilmaadada ku digaan ama 12 sano haystaan waxaan rajaynayaa inay positionka ii baneeyaan haddii igu yiraahdaan cid kale u sii banaan tahayna oo marka ay taladu halkeeda laakiin halka maxamuud xaashi wuxuu rabaa oo doonayaa inuu maanta dib u dhiso Muusena siyaasadda uu ku fashilmay uu hogaamin kari waayay jacaylka dadka uu lumiyay marka maxamuud xaashi waxaan u arkaa inuu meel dabaqtiisan inuu dul fadhiyo oo aan waxba ka soo socon haddii macluumaadka Muuse dhiso habar jecel ciideen ka yeelimayso iyadoo garxaadis uu yahay haddana maxamuud xaashi qabsado way dalka dad baa nala leh marka rajada iyadoo anaga habar jecel markaan nahay waxay ku xiran tahay in wadani maanta kursiga la saaro in garxaadis 12 sano haystaan annaguna waxaanu wadanaa hogaamiyaha daada yar xirsi cali xaaji xasan waxaanu ku rajoonaynaa insha Allah inuu isaguna noqon doono cirra dabadii hogaamiyaha soo taagan waaya suldaanka waxaan weydiinayaa suldaanow waxaynu xasanaa Muuse Biixi markii wasiirka arrimaha gudaha cigaal u ahaa inuu fagaaraha qayriyada ka yiri anigu wax dili kara duca qaada maayo degta qoriga iyo sura inuu yiri asoo waliba markaa dee aysan Soomaaliland awood taangiyi aan haysan beebayaal iminka uu ninka dhaqaalaha haysto qabiilka dhaqaalaha Soomaaliland ugu badan haysta ee leeyahay habar awalna ka soo jeedo ninkii askariga taqaanana macangaga uu yahay ma taqaana maxaa suldaano iminka aad ka sugaysa hadii loo bilaabo xabad soo dagaal un maaha dagaal hal baa ku yimaada horta waaya Somaliland waa qabiil isku taga weeye waaya haddii la ixtiraami waayo sharci baan dhiganay sharciga haddii la ixtiraami waayo
نقول بقى أود سالتو سيا رجعنا مبدأ أبو كتقالما نكادو مبدأ كتقالما يو كارو حبك مقال تركي جواد وجد مركب ده حيور تكال سدي شعب كارياش يسكوجي وايه والجولست وايه مصبيحي مش هو قبيل بالوشوا إذا إنتوا بدن بالله إنتوا بدن بكسور شيء iminka marka sultan halka waxa ka dhisanayaa waagi hore isbahaysigii wadikii magac caleedin bixi mari alool isbahaysi baad ahaydeen habar awal iyo habar jecle iyo arab iyo waa socoteen iminka waa lagu kartiga isbahaysiga soo ma ها ولو قلت إنك هو كليجي موسى يا أفر هبر أول الصعدة طب كان صاريا marka raggiinii adkaa ee mataqaanaa carab ee mataqaanaa iminka isbedel doon baa tihiin عادي سومال لا بقول كم ستيت واسبدل دون واي واحد كورس دورشدي برلمانكا يديغانكا معارك لوعدي بقول كيما شنو تضبط معارك لوعدي واي ninka habar awal baa waxa weydiinayaa ragga adkaa ee habar jeclay iyo arab haday ka tageen iminka ciise muuse xaaladooda laga warqabo iminka maxaa dhici kara ma magaalada gubaysaan habar awalay soo ma aha inaad nabad ka shaqaysaan in la isdhegeysta wanaagsan oo aqoon lagu doodo waaya meesha waxaynu qaadanay nidaam dimuqraadiyadeed waaya dimuqraadiyad baynu qaadanay maanta boqortooyo ma aha haddii boqortooyo ahaan lahayd qolo waliba mar bay qabsan lahayd waaya dimuqraadiyad baynu qaadanay heerar baynu dhiganay dastuur baynu dhiganay waaya maanta haddaynu ku doodno qabiil hebel baa ku wanaagsan kursiga in maanta la siiyo ee waxa jira qabiilooyin badan oo nala digo oo kursiga xaq u leh oo cirifyada degan xaq iyo xuquuq u leh laakiin waxaanu qaadanay nidaamka dimuqraadiga dastuurka aynu dhiganay xeerarka aynu dhiganay maxkamad sare la isla tegay maxkamadii sare soo celisay maanta dooda xisbiyada mucaaradku ay ku doodayaan waxa weeye muddo kordhin buu madaxweynuhu doonayaa taasina ma jirto meeluu ka ilina ma jirto warmay halka hala aadin waxaan ku leeyahay shalay rag asbaysiga ahaydeen ee muuse biixi markii hadda la dooranayay habar jeclay ahay raggii ugu waaweynaa ee garab ka taagnaa iyo carab hadday idin leeyihiin waa qaldan tihiin soo ma aha inaad ixtiraamtaan aragtidooda oo wax la hambeeyo oo maadaama habar jeclay soo qaadatay habar awal soo qaatay markaan garxajis la yiraahdo bal ha qaataano soo wasaa kuma wanaagsanin baashu darafyada ha la gaaray anigu qabiil ahaan uma hadlayo xisbi ahaan baan u hadlayaa xisbigayga cid waliba way ku jirtaa kulmi ahaan واي وما صنطة إنك أمرت على سينيا أمرك ودني مانتا داهرو مانتا عيد إيجام مقاني واحد ولدسان داهرو واحد ولدسان شرعي محاول تشملسه بالودي شرع روح ودقيا دستورك إمك بوك حتى كوايا صدحي توك نوفمبر إنتوا رشيد مدحتوه الغبطو حتى اسكوبتو تاجرت شعبك محاولكم يرسلوا رشيد مدحونا ورشاك سلطان تارك هاك جوابية سواء ظاهر ويدين أداوي ويدين لها وحنا كاري جوابية وحنا ودقنا نظام طوانكي سنبا إنه دورشو حسبية قبصنا لما لقى بالوضع كاري كيف لا تاجري صح توك نوفمبر إذا والله دستور قايل دستور كم قرنا شرعية وحب عسكري دكتور عبد الرحمن عرو باسكري هاي عسكري ورمو حسبه كلمية يرجع حسبه كلمية صدح سنوات السوق دعسي دورشين لبكي تبكي ما خير بكله ها أنا كبر غاتيتها ها حتى دورشين مدحتوه داير على موقفه ها أنا كبر غاتيه ها ده أنا يدور لقارين صدح لحظة بلو الرضا محل حير كي شرعي وتشوفنيسا waxay noogu qaran sharciga seen sharciga u dhiganay 10 sano aynu bedelno oo ni sameeyno doorasho xisbiyaal taamirka laga soo gudbo 6 bilood ka hor December bay dhacayaan leesanadu December hadday dhacayaan 6 bilood ka hor waa inay doorasho galaan xisbiyadu soo
ogolaatay ma gaadhin waqtigeeda gaadhin doorasho la qabanayo bal waayahay u kaadiya Somaliland wan baa nagu soo biiray Somaliland wan baa siina fursad wad maqlaysaa dooda halka socoto adigu garabkeela safanta mar dhaxaad baa tahay mise dhinac baa jirta Somaliland wan wana maqlaysaa qadini wala malaha ninkaas waa hurdooday waayahay qof kale oo bal dhexdhexaada ayaan raadinayaa oo ma taqaanaa dooda yaan ku soo biirinayaa balsi aan wayna aragnay xag iyo habar jeclada iyo arabkii waa arkay bal garxajisa u yeeraya markaa bal garxajkuna aan eego may maqlaysaa garxajis waan ku maqlayaa daahiro haye bal dooda waa la socotay seed u aragtay horta waxaan u arkaa horta reer kulmiya waxaan leeyahay siyaasadda soo barta siyaasadda indhalaaba meesha ku haysaan horta November iyo December soo kala barta sida u kala horeeyaan markaas soo ogaataan markaas oran kartaan maxay tahay xisbiyada mucaaradka aba sharciga jabinaya markaas oran kartaan koob iyo 30 cisho way haystaan mucaarad haystaan shahaadadooda December bay dhacaysaa doorashada madaxtooyaduna November bay dhacaysaa markaan sida u kala horeeyaan soo kala bartaan leeyahay siyaasadana de sidaasi laguma wada dalka laguma wada muusara waa askari waxa laga yeeli maayay marka adigu waa dagaashada waxaad qabtaa baashaaro si kale waxa loo xaliyo maya dagaal ma jiro horta dagaal ma jeclin Soomaaliland maanta inay naga baabado anagu ma jeclin waxa weeyaan xal waan rabnaa laakiin dastuurka waxa jabinaya muusa jabinaya runta marka laga hadlo waaye sirdan waa maqlaysaa gabadha ma la qabtaa aad iyo aad wuu jabinayaa weliba waa qaranka uu ku ciyaaraya madaxweynuhu qabyaaladu u bedelay markuu taageeradii shacabka waayey muhiimaddu waxa weeye madaxweynuhu sharciga waa in lagu soo dabaalaa iminka xisbiyada mucaaradkii waxay ku dhawaaqeen mudaharaad silmiya warqadda haddii warqadda loo diidana maxamed kahay warqadda sii maye hadduu noo diido mar walba xaq baa loo dastuurka ku qoranta muwaadiniintu inay sameeyaan laakiin iminka ma sii og tahay inuu maxamed kahay sii doonin warqad bannaan bax معناها هادو دو هلوتو لكن سي دولتها الديمقراطية waxa kaliya tay marka sharciga jibiyaan sharciga ku soo celin kara waa mudaharaad waa la mudaharaadaya ciidankana waa lagu hortagaya macakaariyaashooda lagu hortagaya awood saltusay madaxweynaha doorashadana uu qabanaya 13 November waa sundul weeye fariimaha waa sharcigana ma jibin karo muuse way gabadha garxaj waxaan weydiinaya adigu ma dagaal baad rabtaan oo qori baad waataan garxajso horta walaal maya dagaal daahiro dagaal maanta Soomaaliland lagama rabo laakiin haddii laga fursan waayo oo muuse isagoo maanta madaxweynihii dalka ah hadduu maanta sharciga isagu gacanta ku qaato dee maxaad ka filanaysaa mucaarad iyo maxay shacabkana dagaal anigu waxay tahay baashaasu markaan fiiriyay sida loo hadlayo iyo dabeecadda muuse naqaano waxaan isleeyahay meeshaas dagaal bi foolanaysa waan sababtan dood uu qabanayo anu saadaashidi waa sida laakiin waxaan rajaynayaa in reeshi cisaaq maqaayadan ay dhuuqayaan iyo nabadan ay haystaan iyo ilmahooda iskuullada aadaya waxbarashada aadaya inay ka faa'iidaystaan oo colaadda ka fogaadaan oo ninkaa odaga ah ee macangaga ah askarigaana la yidhaahdo war sidaan ma ahaysaan ku wadniyey waa sidaan daahiro haddii Turkiga odhan waayo waxa la yidhi waa Turkiga mid qaba haddii Turkiga odhan waayo dagaal loo imanaya weliba ka bilaabma istaagi maayo wallahi markii hore ahayd shacabka loo adeegsado shaar dowladeed maanta haddii muuse shaar dowladeed adeegsado ka bilaabmataa wallahi istaagi mise hargeysa iyo burciyo gibili waxay noqonayaan badan dhiig waxaana noqon maayaan waxa muuqata kolleytaba garxajisku ma taqaanaa hadda waxay qabaan gocasho badan bay qabaan waxay leeyihiin mar baa la suukeen tegey dhib baa naloo geystay xukunkaa naga eelinaya arrimahaas in la daweeyo wax ma taqaanaa muhiim ay aniga la muuqataa gabadhan qofkan ugu soo biiray ayaan siinayaa ummu cabdiqani
السلام عليكم من هذا طاهر على السواد بنقول سلام يا هذيك هنا كستارن يا دمان كجربه واي ما لا مقليا شوفي عم بالو مقليا إذا حالة مريتا وحالة كليها مصاب وكاني واي وحوية تستور كوفر دقيا وحوية إن لقبتها دورشة إن لقبتها ويان لكن مو كتلاب صدي حق وضعنا وحاول أكسرين بوضع إن شاء الله بسم الله الكريم لكن سومالي لا وح كدعيا ما جرتو ولا على وح سومالي أنا دقالو كدعيا ما جرتو ما أنت مالنا كعد كيد بكسو بلبتك سيدو يسوقوا يسلعي هاي لكنه ما دعيسا إن شاء الله marka idinku alxajiskiina waxa leedahay nabad baa ka shaqeynaysaa maya nabad walaalo nabad baa laga shaqeynayaa waayo Somaliland kursiga iyo qarannimada weyn qarannimada walaalo waxa weeyaan waxa aad weeyaan Muuse Biixi deeshaani ku turtuuray isagu wax iska yaqaan weeyaan markuu mucaaridka ahaa waxaan dagaal sokeeyo hore u soo qabtay 4 isagoo wasiirka arrimaha gudaha marka aqoonta dhaqankiisa weeyaan laakiin hadda cid ka yeelaysa inuu dagaal dadka ku bilaabo shacabka reer Somaliland dhammaan waxay doonayaan isbedel doon weeyaan sanadka waanu degayaa waanu iska socon doonaa dekeligii taliyana kama waay inkastoo dhasheen Muuse Biixi iyo hooyadii gabar garxajsa tahay inkastoo dhasheen Muuse Biixi iyo gabar garxajsa ay dhashay ma qabtaan codada ku saabsan garxajisku markasta kursiga laga ilaalinaya Cabdiraxmaan Tuur Sharo ka riday oo wuxuu yiri xabadaas baarkan xabada muujada madaxtooyada waa xabada la dhacay Cabdiraxmaan Tuur buu hadda ka hor yiri marka ma qabtaan codada garxajiska la ilaalinaya bas waxa idinku ma jirto idinku walaala ma cid kale xajis ka ilaalinaysa ma jirto horta kursigani waxa weeyaan nasiib iyo qadar weeyaan واي وما سنتاي وحاسين يا سلطان جيتير 6 ما مقلتها داير على سونا عاد بنكون مقليا ليو هورتي انا دود ما حصلتهاي دودا سو قرحتay u socotay يو لكن كلمه با ka soo baxay xasba dib baa lagu hayo waxa ka hadsaaniyo mawduucaas ugu socon waa sababta u soo qabsay nimaasha xusbiya ku loolamaaya Somaliland baa dhaxa meesha xusbiya ku loolamaaya xusbiga wada ha noqdo wiilka xasaan hay xasnimada iga badan laakiin hadra xusbiya meesha ku loolamaaya laakiin ma wala ragi aslamta ay garxajiso sida isugu yimid arag odayaashii dhaqanka garxajiso dhahaya Muuse Cabdallow ma arag maxaad adigu haystaa markaa ila ma arag kelmad baa tii garxajis dib baa lagu hayaa kelmadii afka ay ka soo baxeen maqlay maya anu ma dhib lagu hayaa ma hamiyad qabtaan baan ku codad waa weydii عقدة واحد عدا وقبنا ما شفته نيو هذي الحس تهينا أدوك هي عقوبة بدن مركز سومالان نحو عد كسر رسالة ما شفته لبا حسبي على بعض إمك محسن ما ينسى دي إني كورنيل كان معك جاها وراهد واحد مجرى لبا سنة بيرس محسن ما ينسى واحد وسبعين ما شفته هي ودنيو مد وحويان عبد الرحمن مدحوينا دارتو بعد من نيو عبد الرحمن دارتو بعد من عد كتب هذا الرسالة ما شفته مركز واحد سبعين نبي ما شفتنا هذا برايا ودنا نجتوش نيو واي وما سنتا جمال هي جمالو ومقلي سانيك أضيع كالحجز جمال كاسورته هو خلدية ما لي موسى هو خلدية هاي سومال لا نضم بعرف تم جراسة دايرة هاي مركا وحن لي هاي موسى بيشيسو دي صدم كاسنو حركي سو تحت حينو إن المشروع ولا ودن كائن قاتل شقالياش هو بدن عيدا كسركالة هو بدن hay-adaha ugu badan marka waa reer Magransa 30 sano soo taxtaxay Magransa muhiimadoodu ma Somaliland dictatornimadii Djibouti oo Muuse Biixi u tagay dhowr jeer ugu dambeeyay waa kii Djibouti tago waa laga warayay marka waxa la dictatornimo socon mayso siyaad baa laga yeelaha habar awal iyo heego waxa leeyahay amba ooya amba cabaada Magransa Somaliland waxa yaala isku soo dhuman maanta shacabkii Soomaaliland uu iska kiin bedelaya gacan bira la isku qabanaya hadaa diidana dhingid baa walaal la isku saaraya iyo dharbaaxo kiban ka soo bixi waayay daayro waan ku salaamayaa adiga asxaabta golaha ku jirta dhamaantiisa u dhantihiin
وايا داقي هبر أول داتين محاك فليسان بلايدا أمباستر أول بعد قول له ويديو حالي هبر أول محاك مغن وحوري بلايا كمغن محاكو تريبا لي وحوري وأقول قروح بدن يقاري قروح بدن يبنقو العوة بوحده مركا يقبل قروح بدن مركو روح كمغن هبر أول بلايا هين مجران إمك محاد دقالك الله الضمية ما موصل لها عشان horta walay maqlayaa daahiro si fiican baa lagu maqlayaa waxa weeyaan habar awal iska daayay Soomaaliland dadka ku nool ee jooga darafka daafaheeda meel kasta ay joogaan horta waxa laala iyo wax ka baqan ma jirto adduunka nabadgelyo ugu muhiimsan nabadgelyadina waanu haysanaa wixii dheeraada ee dagaal ee nin dagaal doonaya horta waa nin aqligiisu yar yahay ma fahanti aqligaaga ay hadlayaan dadka qaarkood waxa weeyaan waxana waa siyaasadana macnaheeda nin waliba waa og yihiin waxaan beel loogu aan loo eedeeno beel loo dhakada looga saaro horta Muuse waa madaxweyne qaran Soomaaliland baanu madaxweyne u yahay beelna uma aha waxa weeyaan siyaasadda iyo caadifada xuninta la iska daayo xaqiiqadu marka sida dhabka ay tahay laga hadlayaa Muuse doorasho diyaar waa u yahay waddankeega waa ogtiin dhaqaalihiisa waxa jira dhaqaalihii waxa qurbarigii dhaw suuq weynaa halbowdihii dhamaa inuu gubtay waxa weeyaan mid kordhinta kuma jirto dadkii saxeexay buu kow ka ahaa cirro mid kordhinta loo saxeexay siiraayo waxa weeyaan in aad nabadgelyada waa loo simeeyahay nin caana ka daadan maayo hadii maanta dagaal ninka ku baaqaya nin waliba nin ay uga futo xintay ma ku jirto habar awal waxa kaga daadan maayaan Soomaaliland oo dhan wax kaga daadanayaan barafka beelahan nagu hareeraysan bay waxa gaadhaysaa maxay nabadgelyo darradu adeer maanta anagu nabadgelyo darro diyaar uma nihin qaxna diyaar uma nihin bal muudiyar qofkaasow qaxna in adeer anagu diyaar uma nihin daayiro waxa ka hadashinaya hadaan qabyaaladayn bal Muuse maxaad ku wadataa uu wadan koo qabtay warbal muudiyar gal Muuse waxaad ka wadatid adiga kulmiyaad labada xisbi u samaysata shacabka ugu tumaysan وصعبتوميسان وضنايا ومدحوينها قراني صدق أنا بس صعب كجراعية وطبعا كوري محل هذا العرو فيصل على ورابك عما وحن وصعب تو جراعية السياسة دي وحين تأكد كان حزب قبيلة أساسا إذا كان عندكم أفر تبع فوق لما هذا حزب بكر حد تسمع عليها وريها تحقق هذا الدون سينا كتاب سينا هذا مركاي نقول متش عليها ربنا إني ساقط أنا مسبدي وايا سلطانك عربو قبل ويلك واد مقليسا سلطانك عربو قرتقات سوق حبابان كنت سنه يا سوق هاي المدة كنت سنه وي بس soo dhaxday waxa weeyaan musabbixi cid uu qabtay داقوكا سلطانك عرب هلا يوكادي واحد حد عرب كوي يوكادي سلطانك عرب هلا سيدات بيدان بلو قيبي وريا بل إير بان كتوسي قبيالة المصبحين سيدات بيدان مدنا لك السمية بالقبلي مدنا لك السمية عينبا مدنا أودوينة مدنا بورما مدنا لاسعانو تضبطي كلامو سمين قبيلي أورهيركو تقانو حسمية بط وريا بل كور هادو انتي كلامو عني لعكتو دي قبيالة تالي كور بريقا باهان او بيلابا كجرتا قلبت بيلابا كما جرتو قصبدي عفان حدنا بد بو قدرت وحنا عرب محو سمي واي محو عبر شعبي سمي واي قلبات محو سمي واي سمرون محو سمي واي اي شيء ويسك سوق الخليسان واصابتك هذه سيسو وحيسوا قبيال عد انه وحبو قبل مايو ارير كوضاهين adigoo araba adigoo nin araba sidaas la Soomaa saas la adigu qolo ma tahay Jamaalow Jamaal qolo ma tahay وريا مود كلا مود كلا وانا بلغتي واحد سوق وريا مود كلا أرد دقيقة كذا لينك أوديه أرد قلدي سأوديه دقيقة كذا قلب على تجمل وحناينك حد سوى برا داير ويا فاميليا جمال غبوت يقال دقيقة هي محل هذا أقومك إلى هذا رانو وحن كلها يا إيدا جيسو وحويان مدحوينها وحن كوري إنت الله فيرسن قراءة برلمانك قراءة وسير هذا أنا ربيل كريات ما هيسطو
beelaha ugu badan run haddii la doonayo garxajis baa jira ma fahanteen waxaydaan in adeer u odhanin beel baa wax cuntay iyo beel baa wax qaadatay adeer waa loo siman yahay waxaana dhexdhexaad baa laga yahay weliba haddii beel la doonayo in adeer idinkaaba laba xisbi oo qabiil la samaysto oo qabiil la furtay iminka adu deeqama waxaa taageeraysaa muuse biixi inuu day iminka waxaad adigu aad dambasaynaysaa in muuse biixi 2 sano biirsado kadibna maxamed kaanu afduubo Somaliland wadani uu ka taqaluso masaas taageeraysaa way soconaysaa salaada waxa weeyaan waana warka ku cadeynaya 2 sanoodna muuse waa loo kordhinayaa maxay heeday ina kaahino cod buu ku imanayaa xisbiyada macaaridkana la gelayaa de waxaas iminka ma sharci baa idin sheegaysa ma sharci baa waarbar jooga hay'adii UNT waxa ku meesha laba qaramadi madoobe ma taagnayn aadara warbaayro ku salaameen adeer waaye waa ku salaamaya waaye waa idin dhageystay sanayna adeer muuse waa loo kordhinayaa nin laga baryayaana ma jirto waa loo kordhinayaa waa muqaddis ina kaahino cod buu diyaar u yahay madaxweyne xisbigiina waa lagu wareejiyay diyaar wuxuu yahay inuu isu soo sharaxo xisbiyada macaaridkana diyaar in ayaguna isu soo sharaxaan adeer nin walba taagtiin nin walba ceesan muuse biixin 2 sano loo kordhiyo 2 sano loo kordhiyo muuse xeerka u banaynaya sharciga waa in abaarnimo jiro musiibo lama jirto waxa u banaynaya waar sugde maxaa la dhila qayla sayda waxa u banaynaya ki siiraayo u baneeyay mudana muus waxa ku siiraayo heede tii u banaysaba isla u banaynaysa kow waxa ku dhicira wuxuu ragii saxeexay muddo kordhinta sababta imika looga soo warinaad waxa hor yaala tuu saxeexa hor yaala xaqa qaldan waaye deeq ku jir gabadha soo gashay Firdawsi ay qolama tafadus adigu waan dhaway daayiro doodana si fiican baa ula socday waxoogaa baan hoos fadhiyay marka hore waa ku salaamay salaamullah aan waxaan gabadha hawar awala oo Ciise Muuse ma garat haye Ciise Muuse mooyay haday ciidamada noolaato yaa qaldan xisbiga mucaaradka iyo xukuumadda markaan waxa odhan lahaa xisbiga wadani anoo habar awal Ciise Muuse ku jira laakiin xisbi qabiil heerka garxajso ha ka dhigina ma garanaysa waaye daayiro waa sii baxaya hal mid baan doonaya hay adiga baxaya asiin haye sanadka maanta daayiro midiga waa wallahi waa billahi waa tallahi amba qabyaalada noqoto amba waxay doontaan noqoto amba diinteeda noqotay amba garxajis uu fulin amba Soomaaliya si jiran baa wallahi yo billahi yo tallahi wallahi baan ooyay wax ka dhaabu ooyaa dhicinaya isaya wax ka daadanayaan adeer waa lagu baabaayaa ma ahe haba jeclana way tashata haba wala way cashuurteeda cunto ayaan ka istaajin waarin adeer cod cashuurteeda cuntaan ka istaajin ma baahna dagaal Oota meeshu qabiil ba ahayd calanka buluuga waa ka taagana wadanku waa Soomaaliyeed ma garatay bala been baas ku shada diidan waxaan dhigaaytay cashuurteeda dambana cilmaysa yaa ka dhigay aniga kartida ma ku salaam ku asaasay berberay ka timaad ku xoray dawal ay tabaysaa gabadh baa teerkiina ma shaqeyn anigii Soomaaliya ku soo xoreeyay baan maanta leeday marna qoyska Soomaaliya ku soo xoreeyay ragina habliina siyaad baa ka soo bax tigtigeer ana ku qabaye نشرفتها أنا شرفت كوسة اليوم لاقينا كتير لو قبول أنا ما صار هذا صار وارياه عدبا يالا أمبا كاهن أدير عدبا يالا كيري الميدان واسع بنينك عانا كدعتان دقيقة ولا تشوفوا كلنا لبري مايو أدير حلو هو كسي دقيقة بها أدير نلا بري مكيكو إسرائيل أركي موجود جرتلو إسرائيل ساق والله بس أول فكرنا حقوق جرا ما هي واحد سياسة بتالا عادي يفوت بيالا وحوي الماضي الريال وطلباتين يدوكنا يسوع سارة إن كاهنا وحقول الميدان واسع بين حشكي صوب حياة إن هذا رعد بالله كلا بحياة بانكوري محاكنة قريبا لقطة قالمي الحين علنا يسوع
ما يمكن شاطيرو واكو مقلا شاكر inoo soo qabaniyo rag oo daynanteed iska dejo hoostaynanteed nagu dejo gabadhu gabar diraaca weeye gabadhu gabar diraac oo aftahanada weeye gabadhu gabar diraacada weeye isariyoolan soo geliyay qadka muud ka qaad deeqa muud qaado hay muudka inaad gashaan jeclay muudka inaad gashaan jeclay haye horta laba siyaabood waan kuu sheegayaa horta garxajis iyagu in adeer weligood taariikhda lama helin meel ay cid ku gardaraysteen iyo meel lagaga adkaaday toona waaya dadkan ay kaga dhegteen xisbiga waa la wada leeyahay xisbiga waa la wada leeyahay waan xisbigu waa xisbi reer waa run waa xisbi ma garanaysaa reer walba xisbi baa ku magacaabay laakiin xisbigu waa xisbi somaliland oo dhan wada leeday laakiin dee waxaa la yidhi soomaalidu waxay ku mahmahdaan geedna xidid la-aan ma baxo geedka aad arkaysaa dee xidid la-aan ma baxo cabdiraxmaan cirre reer buu ka soo jeedaa waa nin garxaajisa xisbiga musharax buu ka yahay isagaana aasaasayaashii xisbiga maantase xisbiga rag kala la leh oo de waa xisbi somaliland oo dhani wada leeday oo guddoomiye ku-xigeen iyo dee ma garanaysaay madax oo dhan loo kala dambeeyo taa horta intaasaan ka leeyahay dad kale xisbiga wadani ma xisbi reerba midda labaadeen odhanaya waxa weeye weligeedba taariikhda ma garanaysaaye intaasoo kunoo kaligii talis baynu soo aragnay oo adduunyada dee la ogaa muuse biixi cabdi maanta inaanu doorasho qabanayn garxajisnayn inaanu ma garanaysaaye saacad barhkii ugu darayn halkaasay kala taagantahin iyo maanta muuse biixi cabdi madaxtooyadii qaranka jamhuuriyadda anu nin reer hargeysa baan hay hargeysa waaxiga yaalla iyo ma garanaysaa saraakiisha ciidanku inay kala gurteen oo ciidamadii ma garanaysaa saraakiisha ahaa qaybta bayga hargeysa ku taallay ee darar weyne oo kuliyadda ugu badana oo 16 kun oo askari ku jireen in xataa lagu kala baxay ayaa jirta oo qaybtii kale tidhi xaggaa markii la yidhi waa la wada tegayaa mataqaana halka la yidhaahdo xarab ee madaxweynuhu madaxtooyada labaad ka samaystay ee gurigiisa ah ee uu isku ilaalinayo halkaa markuu tegay ciidankii kale way diideen mana dee dhacaysa bay idhahdeen waxaana xagga kale daanta kale waxa ku taalla birjeex baa ku taalla oo halka qalabka ugu badan amba magaranaysa saanada ugu badan ay taallo waxa haysta nin araba waa haysta doollar la yidhaa isaga laftarkiisa u diiday in qalab magaranaysa saanadaa la raro oo meel gaara la geeyo iyadoo on dalka la geynayn dee buu hoodla iyo jiida toona oo magaranaysaye de sabab markaa somaliland waxba yaan been la isku sheegin waxba yaan magaranaysaye been lagu baray cabdiraxmaan cirro waxa uu deganaa markii hore siinay laakiin habeenkaa caawa wuxuu dhex degan yahay daanta garxajis oo weliba suuqa weynaa hargeysa bartankiisa u gacan libaaxa buu dhex degay oo uu soo degay muuse biixina waa kaa usii qaxaya ma garanaysaye marka horta halkaasaa la kala maraya hargeysana de markii hore waa la kala lahaa ma garanaysaa nin waliba qayb buu lahaatay ma garanaysaa haddii wixii dalku ku heshiiyeen iyo doorashadii iyo sharaftii iyo karaamadii iyo wada lahaanshihii laga weeciyo oo wada qaldan la qaado iyaguna wadadaa qaldan ay qaadeen dee wax kugu jiraa garxajis ma jira deegaanadiisa waa ninuu ilaahay siiyey reer walbana dee deegaankiisa u tashanaya nin walbana deegaankiisa u tashanaya marka waxaan ku leeyahay dadka doonaya inay magaranaysaa ciisana waan siinaya dadka doonaya magaranaysaayey in aan waxaanay ogeyn ka sheekeeyaano horta maanta muuse labaduba gacantiisa isagay ku jirtaa wallaahi laba siyaaboodna wallaahi oo bilaahi oo talaa uu ku tegaya waana kugu cadaynaya labada siyaabood waxa weeyaan ee uu ku tegayaa horta qodob hadduu doorashada qabto somaliland oo dhan uu kasoo jeedaa muuse uu tegayaa taa waa la ogi hadduu suraa dee dagaalana cidka itaaliyari ma jirto dee 3 kilomitir buu tegaayo wallaahi oo bilaa oo talaa taana uu ku tegaya labadaas siyaabood buu ku tegaya warnaarta iska daaya inaad waxba ku tagi maayeen okay ikaada ninkii aan soo gala odaga ahay iise suuqii weynaaye hargeysa gubtay lahaa waxa weeyaan suuqii gobonimaan ku jirnaa sidii loo gubi lahaa caqligaaga iyo hankaagu halkaas inaad taageen raga inuu reerkoo hadlaa fiicane dib u fadhiiso inaad waaya ciise sine ciise haye walainaantaas yaraam dairo waan ku salaamaya marka hore salaamullah calaykum salaam waxaan filayaa xisbiyada ka doodaysa bay la tahay ها يا قدام حزب المعارضة يا قدام مسبح حكومة ديس niyo ma inaad er mid baan taleer ku siinayaa dhalinyarada had iyo jeer wixii caytama inaad er hadii aad dad noocan oo kale u qabanayso wixii caytama ama reer waadinji HFA inaad taanaga control waa koow waa laba waxaan kugula talaa ragga miisaan kale aad garanayso waa weyn
waxa weeye soo qabqabo oo had iyo jeer dhalinyarada de waxay doonaan ka dhex dhici karaan ama iscaayi kara ama ay caadifad kale ka bilaabmi karto laakiin haddii xisbi mucaarad loo hadlayo qabiil loo hadlin waa caadi la isqaraaca wax weyn ma aha may waa caadi wixii siyaasada laakiin wixii reeranimo u gudbayay cay iyo waxyaabaha waaya bal iminka adigu ka hadalo xukuumadda iyo yaa kula qalday xisbi mucaaradka wallahi niyo anigu arrintaa horta anigu kulmiyaan mar walba ahay waxaanan jecelahay in maxaa leedahay wixii xal yimaado waxa weeyaan xal laga dhigayo xal laga dhigo laakiin waxba arrintaas ma hoos uguma sii dhaadhacayo xalku waxaan jecelahay meeshan odayaalba ka taliya samataliska fara badan dib baa la isugu noqonaya iminka marka kulmiya haddaad tahay kulmiyow ma 2 sana biirsanaysaa xooga wixii xalka dalka ku jiro markay dadku dib isugu noqdaan saddexda xisbi qaran iyo madaxweyne dalka miyuu dastuur laan ciise dalka dastuur mala miya qoran walaal waxay ku faansiyo dastuurku hadda isagoo dastuur jiro hadii sheer waxyaabaha dhici kara oo aan maxaa leedahay xeerarku ay iska hor iman karaan iminka tusaale 2 doorasho isku waqti noqday waxaa isku waqti noqday doorashadii maxaa leedahay xisbiyada iyo tii maxaa leedahay madaxtooyada labadoodiba isku waqti bay noqdeen waana iska ogtahay inaan 2 bilood 3 bilood 2 doorasho lagu qaban karaynin marka in la iswaafajiyo baa loo baahan yahay labadabana sharcigaan dhigaya oo ururada in 10 sano mar la furo sharcigaan dhigaya sidoo kale doorashada madaxtooyada in 5 sano ahaydna sharcigaan dhigaya marka waa la iswaafajin doonaa xeer yaqaanada iyo madaxda dalka ayay waxa weeye xisbiyada qaranka ay u taalaa shacbiguna wixii ay soo saaraan ayuunbay mar walba raaci doonaan marka anigu taa wax weyn uma sii arko waana ku salaamaya daaro maashaana naga ilaali caadifadeeda waay shaakir haye ciise wuxuu yidhi goobtooda soo garataan horta waxaad tidhi ciisow dee dalkan iyo dadkan iyo shuruucdiisa iyo intaba waynu garanayna iyo dastuurka inoo qoran waxaynu ogeyn maanta ma aha maalin laakiin maalinkii 2010 maalin bay ahayd uu xisbigii udub daahir yeelaka ay dalka haystay waxay dadku ku galeen saddexdii xisbiye joogay ee kulmiye iyo ucid iyo wadani iyo udubba waxay ku galeen saddexduba iyadoo oo liisankoodu dhacsan yahay macdala waa maanta oo liisanku shaqaynayo doorasho ma garanaysa ayay kala horreysaa ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa in doorashada madaxweynuhu 13 November tahay taasaana xaq loo leeyahay in la qabto liisanka ma garanaysa ay xisbiyaduna waxa uu dhacayaa liisanka xisbiyaduna waxa uu dhacayaa marka ay gaadho muurka naga galin ka dabo gujiska muurka gal way ku soo marka waxa jira saddexda xisbi qaran ee maanta jooga ninka dambeyn iyo soo galay gujiska muurka galdaniyo gujiska muurka gal waa qaatay soo waxa jira marka waqtiga uu hadla daahir yaala doorashada qabanayay saddexda xisbiye waqtiga jira waxa ku galeen iyadoo liisankoodu dhacsan yahay waa liisanka xisbinimo isagoo ka dhacsan yahay oo ay yihiin waa anaa ka marqaatay taa waa ogahay ayay ku galeen aad iyo aad tan maanta la joogo waxa uu dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qorayaa in doorashada ma garanaysa madaxweynuhu soo horeyso 13 November tahay ta kalena liisankooda xilligu uu dhacayo mucaaridka ay tahay 16 December marka ninkay December iyo November kaga galdantayo daadan ku toolay laakiin dastuurku soo galo horeysiyo waa ku mujaahidkii weynaa jacal guriga wadagaysanaysa shalay toole dalkan iyo dadkan Muuse Biixi Cabdi sharcigu isugu leeyahay haddii uu maartay damco inuu ma garanaysaay jeebkiisa ka soo saarto waa waxaan suuragelin waa waxaan shuruudii dalka iyo dadku wada dhigteen ahayn oo baalmarsan hadday taasoo kala timaadana waxa timaada in dalka iyo dadkaba mar labaad iyo mar saddexaadba dib loo xoreeyo oo ma garanaysaay ninka waaya gujiso waa maqlaysa dood Soomaa wala socotaa gujis horta waad odhan aamu gujiska aamu inaad arqaadwadii odhan tahay weydiin daaru su'aal weydiinaysaa maxaa ku dhiman may wax iman inay gujisaa rabaan bal inaan fiirsho horta bal fikirkaaga soo uu cabirayo iyo farcelintiisa horta khayr badanna waa idin rajaynaya oo horta waxa weeye hadalku isagoo midho lagama dhigo anigu garxaj saladiisuun baan idiin sheegaya waaya horta muuse ururo uu furayaa ma jirto waxaan uu galgalanaya ee uu doonayaa waxa weeyaan waa muddo kordhin wuxuu doonayaa in isaga 2 sannadood loogu daro imanka markay aqoon-yahanka iyo dadka magaraysa wax karadka isku yimaadaan la yiraahdo
muusena labaha loogu daro xisbiyada mucaaradkaana 3 sanaha loogu daro oo muuse labadaas sano uu fadhiyo dabeetana jeegaaniisamkii uu bilaabo oo nala khiyaameeyo oo dabeetana nin uu isagu ama garxajiso maqaar saaran anagu doonaynin ama nin jeegaana oo ina kaahin iyo wixii la mid ah uu meesha keenaa buu doonayaa waaya taana anagu waanu ka shirnay waanu ka horeynaa waanu ognahay waxa weeye annaga laba xaalun bay noo taagan tahay waaya maanta qodobka garxajis keliya laba xaal uu taagan yahay labayo hadalka waan idinka baxayaa waxa uu taagan yahay 13 November doorasho xaqna waanu leenay liisankii waanu haysanaa doorashadu way diyaarsan tahay sharci baa dhigaya haddii aad diido waa dagaal anaa imika idin sheegaya meel ku sii qod waaya sheekay waad maqlaysaa soo maa dooda وانا اللي كبحي انا ميل بان قليا انت اصلا ايوه يا شيكي ما مقليسا دودا شيكي daahiro horta aad baa ku salaamay iyo asxaabteena daawanaysa iyo dadka reebooda ka dhiibanaya kulli dooda goorahanba waa la socday anigu nin arab aan ahay in badan dad badanna soo ahaa xisbiga kulmiye haddana taageersan xisbiga wadani horta xisbiyadu waa xisbiyo qaran dooda waa la doodi karaa xisbiyadu waxay isku hayaan doorashooyinka isku soo beegmay laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa yani kursiga Soomaaliland waa dal dastuur leh kursigana ma iminka yaa qaldan noo sheeg iminka yaa qaldan xisbiga mucaaradka iyo xukuumadda Muuse Biixi horta Muuse Biixi horta ma qaldana xisbiyada mucaaradkuna ma qaldana horta labada sano ee laga cabaadayo madaxweynayaasha ka horeeyay waa lagu soo daray ama daahir ha noqdo ama siiraaya ha noqdo haddii hadda doorashadan la galo oo waxa ku yiri madaxtinimada oo Muuse Biixi uu soo noqdo haddii ilaahay beedekeeda leeyahay tii xisbiyada la galo xisbiga kulmiya haro madaxweyne bilaa xisbiyo noqonaya in caqliga laga shaqaysiyaa ayaa wanaagsan moogti waayo masdar ridwaan haye waayo masdar ridwaan haye السلام عليكم aad baan is salaamaya adigiyo salaamullah aad baan ka qaaday walaalo waxa weeyaan gabadha marwas oo militariga oo darweyna ka tirsan baan ahay laakiin aad iyo kulliyadii darweyna oo ragga u baahnay waraga u baahnayn baa taa soo dhaw kulliyadii Ahmed Aidi xukumayay baa Soomaa Ahmed Aidi kulliyadu xukumayay baa Soomaa ay darweyna fadhiday وهي عيل كتشانك يا حكومة عيل كتشي يا أنا قاعد نوصل. هاي تليا جودة هاي دولة أحمد عزيز ولا قرنا يا تاس كتليا جودة ويا هاي هذا الدروي. مركا عيدا قال في تركيز على كل شيء يا. هاي بل هنور مشاكل وده هنور مدة أسكرك هاي. وضن كوا حويا دينا غير واحد بورت متشران وحب لقات متشران هل كان بدل ما نكون جيسنا جي وحب الله ورسي متشران يا عيدا كلا بحيت وانا. وايه marka wadanku waa nabad daahir oo adiguna waxaan kaliya si cadaalad insha Allah dooda inuu wax bilaaya ma jiraan ma anigu nabadaad haystaan nabadaas ka ciidayn u baahan leeyahay maana wax dhibahayaba iminka Soomaaliland aqoonsigeeda ku mashquulsan haddaad qori isu qaataan waaye wuxuu inoo sheegay halka uu inoo sheegay in ninkii haystay oo ah ma garanaysaa Abdullah Saxaade qaranka oo Ahmed Aidida ninkii haystay xirada darweyne la bedelay warqada maana ragaadu xagad ku aragtay ma si hoose loo bedelay oo soo hoosaysa loo bedelo nin garxajis ka qaada la kursiga kowde sababtaad ku gaadhay maxay tahay ila ma naan arag oon kula joognaa oon ku warhaynaa goortii la bedelay madaxweynuhu baa bedeli kara amar madaxweynuhu ku yimi bal noo sheeg warqadii lagu bedelay halkii lagu bedelay afkaaga in waxaad nooga sheegtay in Ahmed Aidid la bedelay أحمد عيديد كوريا سجى وصريا. أيه أدايم كين اللي بدل ناشر. أروى ترى ما يتوضن قادو قد بيتوضن. أنا أحمد عيديد يروح ولا بدل. أنا عيديد وش شوقا وتوب وكان كوريا كتوبرك.
marka imika wala bedelaad noo sheegtay ayuu noo sheegay Ridwaan warqada lagu bedelay warqad ninka khaldan waa ninka waxa ma yaqaan wariya war ninkii waa markii hore waa khayr waxa ma yaqaan uu iska hadlaya marka imanka ciidanka Soomaaliland ma wax dhibaha ka jira dhexdiina wax dhiba miyaa ka jira su'aashaas way muhiimada hubka uu Muusabixi qaatay ee uu ka qaatay xerada ku taala ma garanaysaa ee wad garanaysaa koonfurta Hargeysa amba warjeedii kamista hubkii yaalay ee uu qaatay ee uu geeyay ma garanaysaa buurta kala jeexan yaalku gurigiisa cusub yahay ee uu hooyday marka uu ciidankii qaranka isku geeyo heeganka galiyay hamo waxaad ma leedahay والله إني نجرين هو أريا يلا سبحان الله العلي العظيم أديكم ولا ما يدري أرتا عن سراكيش عن حرمينه شاكرو أيها نجح وجالسين أو يدين هدي وحي جيران أيها نوشيغان taliska haddaad ka shaqayso annagu waxaanu haynaa wararkii u dambeeyey waanu haynaa waanu ognahay halka ay xaaladdu maraysa iyo dalku marayo waxaanu ognahay in taliyihii ciidanka birmadka oo ahaa nin aan dhamaystate taliyihii ciidanka birmadka oo ahaa nin garxaajisa oo weliba ma garanaysaa Amir Yunis oo nin raacayna Shayn Axmed Tiira waxaanu ognahay inuu Muusabixi yiri ma garanaysaa awoodiisii soo yareeyay oo awoodii ciidanka isku geeyay taliye ku-xigeenkii on reesa matara oo khadar ma garanaysaa ayay laangada la yiraahdo taas ma jirtaad na leedahay waxaas ma jiraano waxa soo dhan oo maanta Soomaaliland yaala oo in mujaahidiin ciidanka galeen midda kale waa kaalay midda kale waxa soo dhan waa ciidanka qaranka ee baabasa arma jirtaan ku yiri awoodu ninka yarayga matari xigeenkiisu awoodu badiyo taliyii uu ka dajiyay la taliyihii oo dhan awoodii laga qaaday oo khadar laangada ciidankii birmadka la hoos geeyay oo amarka madaxtooyada qaadanayaan oo heegan ku yihiin maanta ma garanaysaa ayaa loo yahay oo cid waliba og tahay ma garanaysaa marka taariikhda mujaahidiintii dalka u soo halgamayna xaruntii Sooyaal oo dhaqtarka weyn agtiisii ku taala ay galeen oo yiraahdaan nabada tambaan xaq u leenahay ayaa saaka gudihii ceelka Hargeysa ka taagan haddii aad leedahay inuu nin ciidana baan hayo halkan day arrimaha kala masii hadlayeen ma day adiga anagu ma rabna xitaa inaad dhib gasho haddaan nin ciidana tahay oo arrintan lagu ogolay sharciyan isaga bax aad anagu iskaga bax anagu laakiin warkar dhabta iyo waaqacan reerkiisa baan eelkiisii dadkiisii joogaan ma garanaysaa ciidan iyo meel walbana ku jiraan oo og baan nahay marka wixii jiraado haddii nin ciidana baa tahay aad ka gaabsanaysaa inaad waa ku sheegaya assalaamu calaykum wariyaha عاطفة لا لا يحاس وحيق بوقي لا لا حلق مرة ما يست تدل كل قبيلة سيدور ده سياسي نقينا ومركز النظام نطلع بوق وحرمة لكن وايا إن إذا ما دام أتمر من إني أرنت إذا ما إذا حسامين كويا تومر كوك فصحينا هذيك ما دام إذا أنا أتا إذا كمرة بدي يصير حسامين كويا تضادن ده حبوا مدري بين أنت كشيء تحت عليهم ما أقولي وحين نحن إن كهالشان إذا كأو وحين كبحنا مشان صرت إذا كأنت كهالشان ما أقولي منافقات هذا تعدي مقرنة هي قبيلته فوق هذا إنسان نكاح عيدا كبد عيدا كي ما يعني ما الدور يا هذول ما كأصلا وحين إذا كوساب صرت إذا كماشي على الشيء ما يعني نكاح مقرنة هي دكشة جوا قلط بيت كل مياه أو عدالة كدودي أو وحي دل كودلها كدودي أو شروط دل كلها كدودي أو وحي قطعهم كدودي على الكاسو قال داهرو كل مياه فوق السنة ما تشرتدي ويا كل مياه ويا سكري وأنا مغلسة داهرو هذه أتبقى مغلي ونسلام يا بناتي ويا سومالا بكاهر سومالا نكي أغرنت هاي بيوت 5 عادي داهرو أتبقى سلامي يعني كاشاكري سكرين صارمبا يا أصحاب تريسين عادي أتبقى وسلامي يا دمانتي صاحبيات ويا دوت ديك أكسو جوين يا فكر كيني كنيبته horta waa arrinkan maanta taagan waa arrin dan qaran oo dan guuda si odayaysan oo guurtaysan baa looga wada hadlayaa haddii ta soo horeyso doorashooyinkana dee way iska caddahay oo sharciga ah ee madaxtinimada November baa soo hortay 10 November ta kalena waa mid dastuurku aanu sheegin laakiin xeer ah ta xeerkana ta dastuurka mar kasta ka horeynaysa taasna waa isla yiidsan yahay muhiimadu waxa weeye in xaalka la dajiyo oo dadkan dee meesha sida caadifaysan uga hadlay in arrinka dajiyaan wax dhibi ma jiraan waan iska digaysaa arrinkaana si guurtaysan baa loo dhamaynayaa shacab iyo dhammaan iyadoo gacmaha la isbastaa la dhamaynaya wax weyn maaha xaalku degan yahay
anigu intaas ku talay ilaa kala dejiyo oo dib waa maasad sakari haye waad maqlaysaa ninka odaga si fiican buu u hadlay aad iyo aad daahiro waan maqlayaa daahiro waxaa kuu sheegayaa ninkan imanka muuse biixi ururadan iyo waxaan uu ka sheekeynayo inuu xilka baneeyo waxaas isaga lama weynaa laakiin arrintu meesha ka qurusantahay waxa weeye dalkan 30 sano ayaa dhinac walba loo jahaysanayay oo reer haysteen iminka garxajis ama wadani ama dadkan mucaaradka ma doonayaan xil qura waxa la doonayaa dalkan in la xoreeyo dalkan waxa la doonayaa inanka fiqishani ee laascanood jooga iyo inanka samaroon ee boorama jooga iyo inanka Soomaaliland bartankeeda jooga rash xasaaqan ay u simaan dalka in dalka cadaalad ka dhacda la doonayaa dalkan inamada yar reemka maqiiqan meeshan soo wada gariya nin doonaya in Soomaaliland burburta ma doonayo laakiin waa nin og inuu cadaalad darro dalkan uu u shaqeeyo 30 sano oo dhinac walba u watay marka daahiro waxa kuu sheegaya tan kale ururadana haddaan u galo horta arrinkan ururadu waaba iska qosolo arrin caqli gala maaha nin kale inta deegaankiisii timaado inaad ururo qasab ka qabato Soomaaliland kala barkeed ama 60% ninka Ilaahay ku beeray ee cod iyo dhul iyo dhinac walba Ilaahay ka dhameystiray waaniga oo nin garxajisa way mid kale aan kuu sheegayay waxa jirta imanka maanta wuxuu maraya ninka cawarani inuu ciidamadii shaki uu marayo inuu raado guuto walba soo waraysto qabiilkaaga soo weydiiyo warqad lagu soo qoro halkaas ay daahiro Soomaaliland 30 sano kadib maraysaa mid aan yeelayo inuu ku sii fadhiyo dictatornimo oo dhacaysa ma jirto ninkii siyaad barashada ka xoreeyay dalka anigu ahaa ninkii shalay isagoo sigaar lagu baqtiyo Soomaaliland isaga xoreynayna anigu ahaa marka mid baan ku sheegayaa horta dhici mayso inuu urur furo ninkan wuxuu gagableyay uu socdaa waa in 2 sano loogu daro taana tigir baa ka go'an imanka cidna waa ogtay inuu xisbigiisa wareejiyay hal tigir baa uu go'an oo dalka ma fuulay mise ma fuulay dagaal bay ka sheeganayna dagaal cidna ma jirto laakiin laba way baa furan waa dagaal ama kursiga cidna fuulay waana labadaas aan idinkiisa السلام عليكم waayahay gabadhaa soo dhaweynaya doodda waa soo gabagabeynaya marwo gabar leh saaran ayaa rabay inaan soo qabto laakiin marwoy waa ka xumahay cilad baa ku haysta muuji marwoy bahalkaaga lama qaban karo si kastoo sameeya waa qaban waaye waayahay haye xanaan haye waa kaa qaadnay waa kaa qaadnay dadka horta caadifadooda waxaa la isdejiyey mar walba Soomaaliland haddii ay burburayso 1994 burburleed ma garanaysa daayiro waaya marka dadka ha isdejiyaan baa leeyahay ururaduna waa furan yihiin almost marka anna madaxweyne waxaan qabay 2 sano loogu sii daro si xisbi marka adigu habara walaata adigu marka ma hawar jeclaanahay qabyaalada kullaan in laga hayaa baashu nabad baa haysataa reesha isaaqo baasha waa dhuuqaysaan oo iminkaan u gashana dharku u toolan in aqoonsi aad heshaan ka daaya qabyaaladii iyo dagaalka iyo colaadda ka daaya oo si nabada dalka ku maamula maya waxaan ku weydiinayaa garxajis maanta keligood isma soo saarin annagoo habar jeclaa baa soo saarna ma garanaysa ayagana keligood ba isku haystaan marka waxaa leenahay haddii baasha qabiil noqdo nin walba waa ninkiisii ayagana xaniyooda ha fuulaan annagana meesheedaan galayna insha allah waay xana waa maasanta waay laba qof ugu dambaysa siinaya ninka odagaa soo qabanaya sheekayna soo xili doona haye qofka soo gala qadka walaal salaam calaykum waa gabadh haye anigu horta waxaan usoo koray anu arrinka xisbiyadii warka uma soo koray laakiin magaaladan la leeyahay waa lagu kala qaxay anigu ma aanu aragay waxbaa la kala gurtay iyo waxbaa meel ka qaldan waxaanan ku talin lahaa qofku hadduu wax dhaliilaya ha dhaliila laakiin aflagaadada ha joojiyo waaya masanta waaya axmed soo dhaweynaya waaya ninka ku xiga axmed haye ninkan wadaniga Soomaaliland oo qoranta miya maxaa u qoran walaashi codkaaga lama maqlay maxaa kugu dhacay السلام عليكم عليك هذا هو مقليا عليك سلام صاو horta anigu maanta Soomaaliland xaaladda ka taagta waxaan oran lahaa Soomaaliland waxa ma aha inay maanta oo kaliya ay horta ku eeg madaxweyne bilaa turxaan ay u baahan tahay muusana cidina dooni mayso Soomaaliland ma aha afarta hargeysa iyo burco ma aha Soomaaliland beelaha taraf oo dhan wad arkaysaa maxay tahay xataa daaroodkii ay go'aan
maxay toy markaas madaxweyne bilaa turxaan oo China ka isla soo dag oo dad baan la isla soo jeed ayay Soomaaliland u baahan tahay واي هو ما صدق واي هو ما صدق واي qabyaalada ku nimid dadka qabyaalada iyo waxa iyo reer waxa Soomaaliland inay ku koolnaato isagoo kaliya maaha واي وما صدق واي احمد باسيلي احمد قف ugu dambaysa ta shaakir baan noo soo xiraya واي hay احمد ku soo daayro aad baan ku salaamayaa adiga asxaabta kale meesha daawanaysa dhamaantiinba واي saddex kalmood baa meesha soo koray saddex kalmood meesha soo koray wax weeyaan horta xisbiga wadani iyo xisbiga kulmiye iyo xisbiga maxaa raadayay wicid xisbi qabyaladeed maaha xisbiga qabiile leeyihiin maaha taa meesha laga daayo midda labaad qofka marka daliilayso macnaheedu aad sheegaysaa leedahay anu maanta nin habara walaanahay xisbiga wadani baan taageersanahay sababta ku taageersanayna waxa weeyaan waa mabda'ayga iyo maxaa raadayay sidoo u shaqeynay laakiin se ma jecli in maxaa raadayay nin madaxa ama fisaca waraaba ha ahaado ama hay'adda musabixi oo xisbigiisa maxaa kulmiye ha ahaado ma jecli in maxaa raadayay shakhsiyadiisa loo caayo oo loo dhaliyo laakiin se in lagu dhaliyo maxaa raadayay wax qabadkiisa isoo uu wado waa taas waa sax weeyaan oo lagu dhaliil karaa laakiin ninkay marka meesha ka sii degayay wuxuu maxaa raadayay wuxuu ka dhigay maxaa raadayay inuu soo Soomaaliland kaliya u soo dagaalamay inuu kaliya Soomaaliland wax u soo qabtay ayuu ka dhigay u hadlayay marka Soomaaliland waa la wada leeyahay ama habara wala ha ahaado ama ala raadayay ama Samaroon ha ahaado ama inta dhul bahanteena la degan ha ahaado Soomaaliland waa la wada leeyahay maxaa la dhahdaayay wadankana la wada dhisto wax la wada qabsado ayaa meesha loo wada jooga laakiin hadda maanta kaliya tiraahdo aniga Soomaaliland ugu dhul badan aniga Soomaaliland maxaa soo xirey واي شاكر baa ku jawaabay shaakir ay soo sax ma soo ku hadlay ninka habara wal horta ninkan waa nin habara wala oo de reer balaaran habara wal oo ragaad xisbiga wadan way ku jireen oo hogaanka saxaad xisbiga iyaga haysto gudoomiye ku-xigeenka saxaad nin habara wala baa oo xamarji baa waan soo dhaweynaynaa oona ku taageersanay fikirkiisa uu ku hadlay laakiin mid un baan clear diidanay Soomaalidu waxa ku mahmahdaa nin xil qaaday eebka madaxweynuhu ma aha madaxweyne maanta reer waa madaxweyne Soomaaliland oo dhan haddii la dhaliilo iyo haddii la sheego inuu wixii uu ku xun yahay macnaheedu ma aha in reer la dhaliilayo inay dadkoo dhan halka u soo galaan difaacaan taa waa laga wanaagsan laakiin wixii uu dhaliilayay nasabiyadiisa iyadoo la caayin oo wax kale loo geysanin waalidkii waxba laga sheegin haddana sidii uu deetubtii uu sharcigu lahaa iyo dhaliishii uu sharcigu dhigayay ma garanaysaa ay madaxweynaha ogolaanaysay in la dhaliilo waa in la yiraahdo waana in loo sheego hadda anu ma arko wax xumaana wax ma garanaysaa ay caadafada oo qofka la ka soo dhex saari karaana kuma dhex jirto waayo waa madaxweynaha waayahay dood inta aan ku soo gabagabeeyo jawaabta ninkaasan ka yara jawaabaya shaakir walaal waxaan malaynayaa inaad maqlaysiin kale inaad maqlaynayo inaad ku dhaafteen oo dhici kartaa hadalku sheegay uu lahaa ninka cawar cidu sheegay mala cid kale meeshii neelabay joogin ama laga hadlayay واي hadalkaas uu yiri waa sax way Muuse bixi waa dad badan ugu yaraan Muuse Cawar iyo Muuse Shaan iyo magac badan baa loo yaraa laakiin Muuse inuu wada nasabiyadiisa iyo personaligiisa wax looga sheegaa waa qalad laakiin wixii uu sharcigu dhigayo ee uu sameeyay inuu qaado واي shaakir iyo Axmed baa maasantiin dood inta soo gabagabeynaya qaybta labaad soo diyaariya qaybta labaad ayaan aad ma taqaanaa idinkoo rag waaweyn oo saameyn la ayaa suuqii keenaya qaybta labaad doodda ayaa xiiso sii yeelan doonta waa la fuguraynaa Soomaaliland waxa uu rajeeyay nabad Soomaaliland waxa weeye nabadda ay haystaan ayaa wax kasta ka qaalisan in la iska daayo maskaxduna shaqayso waxaan leeyahay rag daaraha quruxda barista ee hantida haysto nabadda ka shaqeeya saasaan leeyahay nabad wax weyn weeye aqal daradii hawiye ku dhacday idinku dheen